su-aasha ugu horeysa waxay leedahay sheekh zakada ma ku bixin karaa markaz ama masjid la dhisaayo shareecadu maxay ka qabtaa inaan ku bixiyo zako halkaas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد زكادو ما لغو بحين كرا زكاة المال كوي حولها زكادو دي مساجد ما لغو بحين كرا ولو مسألة خلافية ايتها يعني وحا صواب إلى أها ما لغو بحين كرا وحنا كمتها عموم كجنسي في سبيل الله بيسوق ليسا oo dawaahir iyo nusuus badan oo waxaa jirta tilmaamaysa in fi sabiilillaahi looga jeedo acmaalul khayri wal birri oo dhan looga jeedo laakiin masalada khilaaf baa ku jira wallahu aclam jazaahu allahu khayra aljazaa sheekh maxamuud shibille warqadan waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalaha su-aalaha gudbinayo sida sheekh axmed dheere hadaafow fadlan walaalihiina ashaacirta ah su-aalaha u gudbiya maadaama aada culimada nooga dhowdihiin macnaha idinkaa islaam u malayna wuxuu leeyahay sheekh maxamuud shible waxaan rabaa in aada wax nooga sheegto wahaabiyada iyo mujasimada waxa ay ashcariya uga duwan yihiin haddiise ay ashcariyadu ahlu bidac ka mid tahay inoo sheeg caqiidada xaqa ah magaceeda kutubteeda culimadeeda waxaan ku wareejinayaa sheekh maxamuud shibille biidnillah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد horta waxa la iga codsaday waa muxaadaro nuskeed in sha allahu tacaala anoo soo koobayana dalabka waan ajiibayaa caqiidada saxda magaceeda caqiidatu ahli sunna waljamaaca la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa caqiidada kitaabka iyo sunnadu tuseen salafkuna ay raaceen waxaa kaloo la yidhahdaa caqiidatu ahli lxadiid baa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa caqiidatu taa'ifati almansuura baa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa caqiidatu lfirqati annaajiya baa la yidhahdaa intaasoo magac bay leedahay oo isku macno ah caqiidada waa caqiidada taariikhdeedu tahay tii qur-aanku ku soo degay sidii nabigu u fasiray sala allahu calayh waalihi wasalam axaadiidta iyo sunnadee nabiga ka sugan siday tilmaantay siday saxaabadii khulafadu hordhacay u ahaayeen iyo intoodii kale ay u fahmeen ay u raaceen si a'immadii taabiciintu ay u raaceen a'immadii xadiidka iyo fiqiga afarta a'immada ah imaam abu xaniifa maalik shaafici axmed ay u qaateen a'immada kutubu sita ay u qaateen ee bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maajah ay u qaateen caqiidada kutubteedu waa qur-aanka kowdhe iyo sunnada asaxday oo aan laba qaybood ku tilmaami qaybina waa qaybta axaadiidtii fiqhiga fadaa'ilka sifaadka isku wada dartay sida kutubu sita iyo musnad ulimaami axmed iyo muwatau maalik oo waxyaaba ka taataabtay aan badnayn ay ka midka yihiin iyo kutub caqiidada si gaara looga alifay oo ay ka mid yihiin kitaabu sunna imaamu axmed ibni xambal uu leeyahay iyo kitaabu sunna oo wiilkiisa cabdillaahi ibn alimaam axmed ibni xambal uu leeyahay waxaa ka mid ah kitaabu tawxiid oo imaam maxamed ibni isxaaq ibni khusayma uu leeyahay imaamu la'ima oo faqiih muxadis ahaa waxaa ka mid ah kitaabka uu leeyahay abulqaasim allaalakaay ictiqaadu ahli sunnati waljamaca la yidhahdo waxaa ka mid a kitaabu liimaan iyo kitaabu tawxiid labadaas oo uu leeyahay abu cabdillaahi ibni mandah waxaa ka mid a kitaabkuu leeyahay sharxu madaahibi ahli sunna alimaam moxamed ibni shaahiin abu xafs moxamed ibni shaahiin uu leeyahay waxaa ka mid a kitaabta faraha badan ee dhammaan baabkaa ka hadashay kutubulcaqaa'id laga alifay oo dhanba ah sida mu'alafaadkii cuhmaan ibni saciid iddaarimi ee ahaa alraddu cala aljahmiya iyo kitaabkiisi kale la yidhaahdo naqdu cuhmaan ibni saciid iddaarimi على الكافر العنيد بشر المريسي وحاكم إذا كتاب الرد على الجهمية وأحمد بن حنبل ليه وحاكم إذا كتاب فرها بضن سيدا وهذا شيء رسالة السنة للإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى التبصير في معالم الدين للإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وحاكم إذا كتاب سيدا أفرها بضن وقيبي قبل يرى كم إذا كتبت هذا النوشيك هدي عتري كتبت هذا النوشيك هدي عتري
kutubteedii kuwaasaa ka mid ah laakiin intaa way ka fara badan yihiin oo fadhi kuma soo koobi karo magacyadan aad sheegtay wahaabiya inay jirtiyo inayna jirin wax macnaa samayn mayso waxaa loo tiiriya maxamed ibni cabdilwahaab laakiin caqiidadu gadaal buu ka soo gaaray isagu wixii uu ka waafaqaye aabbana uma aha wayna ka abtir weyn tahay ashaaciraduna xilligaa waa ka horreysay mujasimada nimanka la yidhaahdo ereyga waa la itlaaqaa laakiin ninba waxbuu uga jeedaa hal macno oo mujasimo la isku raacsan yahay ma jiro ninba wixii isagu u arkay inay fiicneyd ciddii khilaafta buu mujasimo u yaqaanaa sida maxamed zaahid alkawthari kitaabkiisa ta'niib alkhatiib la yidhahdo markuu qorayey mujasimada uu tiriyey waxaa ka mid a shaafici iyo axmed ibni xambal iyo imaamu malik iyaa ka mid a buu mujasimada ku tiriyey laakiin adu ma qabtid ereyga mujasim waxaa looga jeeda waan ka hadli doonaa ashaaciradu ahlulbidac miyaa haa ahlulbidac wey ahlu sunna miyaa maya ma aha laa caqiidatu salaf wala طaa'ifa almansuura ashcariya ma aha ahlu sunna iyo ashcariya maxay ku kala duwan yihiin laba qaacido ashcariyadu waa farac jahmiyada weeye asalkeeda siday ku timidna taariikhdan idin akhriya maadaama ad i weydiisatay caliy bni ismaaciil abulxasan alashcari isagoo yar buu aabihii dhintay waxaa soo barbaariyey shaykhu lmuctasila alqaadi cabdiljabbaar baa soo barbaariyey oo rabiib uu ahaa 40kii sane u horreysay madhabulmuctasiluu qabay isagaana qoray cid kale ma qorin 40 sane kadib isaga kutubtiisa wuxuu ku qoray in isaga iyo sheekhiisii adeerkana u ahaa soona barbaariyey hooyadiina qabay ay isku dhaceen munaadaraadkoodii qaar ka mida taajidiin subki baa fi tabaqaati shaaficiyati alkubraa ku sheegay masalatu alaslaxi waltacliili masalada la yidhahdiyi ay ka midka yihiin daahibaa fi siyar aclaami nubala ku sheegay nin kale alqaadi ibni casaakir baa 2 kitaab ku sheegay kitaabkiisa la yidhahda tabyiinu kadibi lmuftari cala alimaami abilxasan alashcari iyo kitaabkiisa taariikhu dimishqa la yidhahdo qaybo ka mida waxaa ka hadlay alimaam abu bakr alkhaiib abu bakr alkhatiib baa ka hadlay fi taariikhi baqdaad rag badan baa ka hadlay muddadaa kadib wuxuu ka guuro masaa'il ay isku qabteen sheekhiisii madhabkii abu cabdillaahi ibni kullaab buuna u guuro oo sifaadka qaar sugayay intaa waa la isku raacsan yahay waxaa muran iyo khilaaf ka taagan yahay markaa kadib ma ka soo noqday oo madhabkii salaf iyo ahlu sunnaha ihbaatu sifaat ma qaatay mise halkaasuu ku dambeeyey waa masale taariikh ahaan muran ka taagan yahay murankana asaas waxaa u ah kitaabkiisa alibaana can usuuli dayaana oo kutubtiisa ugu dambeeyey iyo fusuusha caqiidada ahlu sunna uu kaga hadlay kitaabkiisa ikhtilaafu lmusaliin maqaalaat lislaamiyiin wakhtilaafu lmusallin kitaabka mujalad weynna waa lagu daabacaa 2na waa lagu daabacaa hadday magaalada yaallo in la keena way ficnaan lahay intaan hadalka ku jira gadaasheeda aan ka akhriya fusuushu kaga hadlay masaa'ilkii uu qabay abulxasan alashcari iyo ashcariyada maanta joogta waa bari iyo galbeed bay kala yihiin abulxasan alashcari ikhtilaafu lmusaliin maqaalaat lislaamiyiin iyo alibaana intaba wuxuu ku qirayaa hadalladii si fiican u dhegaysta ihbaatu lwajhi lilaahi wuu qorayaa oon muran geli karin ihbaatu lyadayni lilaahina wuu qorayaa ihbaatu listiwaa ilaahay kor inuu jirana wuu qorayaa sifaadkaasoo dhan wuu qirayaa ardaygiisii koowaad ee kutubtiisa wariyey abu cabdillaahi ibni mujaahid isna intaba waa qirayaa markii dabaqadii saddexaad alqaadi abubakr bn albaaqilaani la soo gaaray buu ka yarweecday oo jahmiyadii sifaadkao dhan diidanayd buu ku yarweecday wax yar buu durkay tamhiidu dalaa'il iyo kitaabkiisa taqriibka haddaad akhridaanna waad arkaysaan labada waa hayaa isaga marka lasoo dhaafay waxaa haddana halkiisii iyo khadkiisii wax yar sibqiyey raggii abuxaamid alisfaraa'ini abu bakr ibni fawrag abu cabdillaahi alxaliimi abu bakr albayhaqi oo ragga ardadooda ahaa waxoogay khadkii abubakr bn albaaqilaani bay ku wadeen oo wax yar ka durkay khadkii abulxasan alashcari kaga dhintay ashcariyada intaa kadaashadu waxaa yimid abu xaamid alghazaali waxaan leeyahay waxaa yimid abulmacaali aljuwayni imaamu alxaramayn ninka kitaabka fiqiga shaaficiga inagu aan haysanaay waxaa aabbo wa nihaayat lmatlab fi diraayat lmadhab liabilmacaali aljuwayni raximah llahu tacaala
وحسو خلاصي كتاب كيسة أردقيسي أبو حامد الغزالي والوجيز يا الوسيط يا البسيط كقري وجيزك أبو القاسم الرافعي بقى شرح الكبير فتح العزيز في شرح الوجيز أما شرح الكبير لو يقانا قري ونا التلخيصية محرر بقول تلخيصية محررنا منهاج بالغسوة التلخيصية كدمنا شروح دي منهاج كأننا جالس سوق قارتي محرر يا منهاج اختيارات كودين عمدة السالك وعدة الناسك بابن النقيب المصري كسو تلخيصية مركو منهاج كشرح كدب كتاب كيس لبيه طبعا كان مجلد اللي يرادو النكت على المنهاج النكت السراج على متن المنهاج اللي يرادو ابن النقيب المصري وعمدة السالك وعدة الناس إنك إسكاله هوي أبو العمعالي الجويني مركا منزله وين بوفقه جودهان هي فقه شافعي قارهان كليه لكن في مسائل الإيمان الصفات كأشاعرة ذا لقوها يستي مذهب كي أئمة هوري ابن فورك يسفرائيني ابن الباقلاني وكلا دحبحي جهمية دي صفات كدندي دنيد حق وضو بقول كي وكنتن أولا قوري بقول كي وكنتن بوخاتك كبحي وحاوقدم بي أردقيسي أبو حامد الغزالي نك إحياء علوم الدين كيو مختصرات كان صور شغلنا فقه شافعي المستصفى في أصول الفقه المنخولية كتاب كيسان تعليل كيو كتب كان ليرادة فضائح الباطنية إيو كتاب كان ليرادة المضنون على غير أهله إيو مذاهب كتب تبادن إسكالي رحمه الله تعالى بقول كيبا كنتن خدكي أئمة ذي أولي وحلقوها يستعي كتاقنايين وكلاب بحي إنكار الصفات والجهميو بقول كيبا كنتن خدك قوي قداشي وحايمد الإمام محمد بن عمر فخر الدين الرازي نكا المحصول إسكاله نكا كتاب كيس المطالب العالية إسكاله أساس التقديس نكا إسكاله وي ونكا فتح الكبير تفسير الكبير إسكاله ومفاتيح الغيث ليرادو كتب بدن بو إسكاله عقائد كانت بوغا هدلي وأنك متأخرين تأشاعرة الإمام هدي إطلاقان أي وجهدان فخر الدين الرازي أي وجهدان وي ننكاسي محلي أبو حامد الغزالي خدكي أبو المعالي الجويني 50 لبحي 70% وحاسي قارسيو الله تنكال خدكي الجهمية كو عليي أبو حامد الغزالي صدن كي دنبه فخر الدين الرازي بعد ما يستري أشاعرة جوكتا وجهمية محضة وي معها أشعري أبو الحسن أشعري مذهب كيسانا ما هيستان هذه ما أنت المناسبات دي هان لهاينا كتبتي أبو الحسن الأشعري رسالة إلى أهل الثغر هان نقطه مقالات الإسلاميين هان نقطه الإبانة عن أصول الديانة هان نقطه هالكاسن صور دي لها أشاعرة ما أنت جوكتا جهمية وي أشعرية معها أبو الحسن الأشعري مذهب كيسانا ما هيستان مسألة أنا ميل كستون شوغو أشاعرة صومالية عرب هديس أرسدان مناظرة يدود علني أن كتب لقرت ديار واهي ميل كستا انت أن نور هاي ان هدي كرو أشاعرة أبو الحسن الأشعري باقلاني يا أبو إسفرائيني إيا تن أبو المعالي الجويني يا غزالي إيا فخر الدين الرازي انت يا ريد اللوف كي لما يستر لما نايدنا الإجابة في شرح المواقف كو قبيو الجهمية خارج سكادي أو لا فخر الدين الرازي وحوليه هي مسألة الكلام مركو كهالله قرآن كن من مخلوق با مركو وضو وحوليه إلهي هدي لغا يابو هدان أشاعرنا إلهي هدي لغا يابو عامده هدي لغا عبسانا يانا معتزلة خلق القرآن ما قبنا إلهي رنت هدي لشغول لغا يابنا مذهب كي معتزلة خلق القرآن الجهمية قبنا بوليه بصريح العبارة مركي إيمانك لغا هدليو وحوليه ما هدي ددوينها الدارين كودا الله بقايو مسه رنت هدي لغا هدليو runta haddii laga hadlayo camal looma baahna iimaan baan qabnaa si cad oo sariix u wada qiraya kutubtiisa asaas mataalib al-aaliya iyo kutubta kale la midku ka hadlaya ashaacira iyo ahlus sunna waxay isku diidan yihiin sifaadka ilaahay ee kitaabku sheegay quraanka nabiguna sheegay sideeda ma u qaadanaa mise waxbaynu ka bedelaa arrahmaanu cala al-arshi istawa wa tusala u soo qaadan ilaa waxa laga yaabaa waxa ugu badan meelaha laga sheego iyada kamida ilaahay ma kor ma jira mise ma jiro quraanku wuxuu yiri 7 meelood buu ilaahay yiri arrahmaanu cala al-arshi istawa ilaahay arshigiisu ka sareeya 37 aayadood oo kalena siyaabo kala duwan bay u sheegtay ilaahay kor inuu jiro ahadiisa marka laga reebo ahadiisa nabigana gabar buu nabigu yimid waa imaamu muslim fi sahihihi way nin baa rasuulka ilaahay oo gabar baan rabaa inaan xoreeyo wuxuu yiri iikan
وهو كان حيكوري أين الله حقيت شراه مركز وقعنت يكون تاكتي في السماء كر وحولي أنا أقول محانا هاي رسولك إلهي لبدا سؤالات بويدي كذا وحولي أعتقها فإنها مؤمنة حريب مؤمنة دوية سؤاش الله حقيت شراه يا ويدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما سؤاش محلوك إن هذا ترى نبي محمد دين تكتقان وحي النبي محمد لو سودتي أدوى الدين تيكو قلي لا إنه كقلي ويا وحي الشيطان وي نبي محمد بعد قبرنا كله ومسلم في صحيحه أين الله حق جرا إذا هرتي زي تاجنته في السماء كرب جرا بيلاده هذا وحلا يابا أنا أتصير عيوته شيطان باكو صارن ويا هذا يحنته النبي محمد ما ده سؤال عشان ما يرادين أما واكن صحيح مسلم أدوكو أنت أوتك تكتر ترى كلف أرد عرب خلاص ولا فكسر بابي حديث كاس حديث خلاف يمر كوتشي لما صحابة يسلف كنا واكو جماعين الله كرب جرا أشاعر لكري ومتأخرين توضن وحيدا استوى هدهن حرف با كم مقن ومحوي حرف كم مقن لام با مقن بيلان استوى وهو يأذى نحضوضة لا انقلي محايا النقطة استولى إلهي با قبصدي آياتني مركا هذا وحوش شبها ربني إسرائيل با وحال يري مركي قدس قرى الله هذا وقولوا حطة إله الدنب الناف بانكار ربنا لها ليري حطة تنتي حادية طادي نحو النون كدرين حرف بي كدرين حنطة قمن ديان ربنا بين نقط ولذلك علماء قارت المامين لبضنا وحير هذين نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان نونتي حنطة لغو دري إيا اللانك استولى لغو دري لبضا قرآن كإلهي كمن مها قضالا لغا كياني طيب كسوتك وحان اللي استولى إلهي وغارب نقضي معنى أهم بفاسد يا باطلته إلهي بقى غالب نقضي يو كقالب نقضي وكقبصده يا هيستي مركه هوري عرش إلهي يا هيستي استولى إلهي بقى غالب نقضي محاول دليل مركه اعتراضه نين نصرانية وصدح إله عابود وركي وابن خطل اللي هذا اللي هو كيني ابن خطل بايري قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق بالوده وهذا النبي أين الله يكرب يجرتاز ومعدا مركا ترى تضوء آيات با استوى كسر أرتي سيد ودا يقول إما إيه واتشرعونا وحلا يسكوها يو صفات كإلهي الشاكتي قرآن كشاكي سنة كسوغان سيدو دا وداية يدين مين وإن الملك لقرينا جوهرة التوحيد يجري وكله إبراهيم اللقاني أي جوهرة كجري وكل وصف أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها صفة كستود كعب سطة إنه معنى كلا يالاتو أما كأمسو معنى ملده معنى هذا لما قرانا يده أما مال كلا مدح أصار أما حيوقص بأنه هدانا معنى هذا قراني إنه هرتا ما قرانا يا معنى هذا دات كانوا موقلي ورماه نمانك النبي يوسف مركو حرنا ملك يوجي من الرياضة يفسره ويجري باوحيرا قاد أضغاث أحلام والرياء وريرسان بيدادين أنا ونكوا ما فسر النقان هذا فسر أقولني وريرسان تيسيكو غاتي هذا هذا ترى هذا التفويض أنا ما قرانا يا معنى هذا ضدك قرانا يودا جهلي بعد قرتي هذه ملك على أسر آيات كستي حديث كستو أنا مسكح هذا إذا سير لا يرنقطه هذا ماشي عن رب مدح أسراي دين تصح معها وحال يسكوها يستوى حوي والصفات كإلهي القرآن كل شيء إنك إلهي القرآن عربنا أصح منه ديننا قرآن يا صنع كقاضنا عربي كوها الله نبي محمد كي يقينين مجرين صلى الله عليه وسلم نكفصيح سنة مجرين ننو مدن وقضى سنانا مجرين دين عدي سقى الله بربر لقول لقى قادرنا مجرين ويسقى بالرسول كذية وحي إلهي يراد الرسول كان يراد الصفات كإلهية سيدو ضانو قادرنا وحي يراد المية تصالك على الإنسان وحال يري رضا رضي الله عنهم إلهي باكرها للنقضي وحيدنا عليهن إلهي بالثوابين يده إن الله يحب التوابين إلهي كوة توبت كانوا تشعليها ما يتشعليها عليهن تشعل إلهي لقمت المامة والثوابين ده غضب الله عليهم الله عرها عليهن إلهي بعقاب يده طيب إلهي مركوا لها غضب الله عليهم عاقب الله عليهم بالدهواي هدي أريقا وعراضيان لديه كرين إلهي غضب محوجري رضي ورال النقضي هذا لديه كرين إلهي محوجري وحيجي هذين وحبانو كعررينا ومحا كعرريسان وحان كعررينا
صفة معنى وحي حنبار سنتهي أن إلهي لقو تلمامي كريم ومحي تهي رضي رضا وحال لي هذا رقة في القلب قلبك تشلع كل عيبة لي هذا إلهي قلبك ساتر عسان بده كرنه ساسي إرادين مكاسا وحان النري صفات كالسبعة تسكتين إرادة كم بدمتهاي ها إرادة محل إرادة ميل القلب قلبي بالله هذا إرادة نديدة واحد صفة كديدة صفة كالصادرة اللبا قاعدة كسين كسو قبين وركيغا قاعدة كبد وحان لنا هاي الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذوات صفة مركا لغا هدليو هاد بذات دي رعسانته adigu lugaad leedahay lugahaagu waa luga u cunamo ku haboon adiga sidaad u abuuranta quraanjadu lugay leedahay adii hadii la yiraahdo misku lugatin ay quraanjada mise waa luga abuurkeeda la socon kara maroodigu lugu leeyahay waa luga daatadiisa u cunama saadarteed waxaan leenahay markii laga hadlo sifaat daataday raacaan ilaahi daataha daan u qirno aan daatooyinka khalqiga la mid ahayn قصب وحا إن صفات وقرانو أن صفات كخلق اللمد أهين قرآن كان ينبري ليس كمثله شيء الله وحلا بربر إغمالها وحي سيدا استاهي هدانا وهو السميع البصير وحنا واركا وحنا ومقلا أرقسيا بقل كيسونا ضدك اللمد معها أنك يا خلقنا اللمد معها صادرت الصفات كان إلهي أدى سيدو وشيكتي أدى خلقنا هكوش بهنا وحاتر هذا سي إلهي أعننت إساقنا قاب كيدا وأقيهي هذه اللي يقول يراهدو صفة صيتها نوشك وحتى هذا الذات الإلهي صيتها يشك مركو كيراد الله أعلم وحتى هذا الله أعلم إلهي محد ذاته وقلاتي ده دليل باشاقي ويري أن صفة دليل باشاقي إذا قاب كذا شك أدوك ذاته قاب كذا شك ما قرانا أيو أنا ما قرانا أيو وحتى هذا نقول جواب تعد بحساب جواب كوا تاسي أشاعر هذا ضم بآدم ما خصيصه شاعر دبا قاعدة اللواد باخصيص وحان لنا هاي علماء يراهدين الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض صفات كقاركود هدي لغا هادلو كوا كلنا waa lamid meel ma kala aadaan sifaadku imma inaad wada ogolaato wa imma inaad wada diido shaaciradu waxay yiraahdeen ilaahay samci maqal baan u rumaysanna maqalka qaabkee way hadaa tiraado ayariiqu bi jalaalihi buu yiri طيب ilaahay ridaan u ogolahay yariiqu bi jalaalihi baan leh وحلي الرضا عن قلب الدبعاهن مياه تقان سوى حان ليه سمعي عن دقلهن ولقى مياه ركتي حلي مايا ما دقوا ليه هذا مايا يليق بالله أنا كان مليه قلبي لكن يليق بالله بان له محل سمعي وسكت هذا القرآن كان شيء أنا تن قرآن كان شيء محل لبض القرآن كان شيء من اللو ديدي من الله قاعدا أشاعر الله بن بيكو قصبيهن عند المناظرة إما صفاتكم لن إني ديدان الجهمية يكو حرادان أخيرا كو حرادان وإما إن الصفات كردن على مذهب أهل الحديث والسنة وذقران على كل حال مذاهب الأشاعرة أصول شو هذا اللغون نقضه مسوي كران إلهي نوتشرو يا النبي نوتشرو منا ما عدين كران قواعد أصول شو هذا صابته وحير هذين إلهي نوتشرو قرآن لقى قاضن ماي حديثنا لقى قاضن ماي عقلي قال الله نقنا إياه عقلي أنا هل دليل كلية أشير إلى أن كسوروريين دليل إثبات الصانع وحدوث المصنوع حدوث العالم كل متغير حادث كل حادث متغير وكل متغير مخلوق فكل حادث مخلوق انت هلك قاعده ولا صوب بالله القاضي ابو بكر بن الباقلاني في تمهيد الدلائل كتاب كسا لا صوب بالله الى كو هدا لا سو غارو هلكاسي كو wareegayaan qaacidadana Fakhruddin Ar-Razi baa intuu ka dabatagay budulka la samay halkii daliil iyaga laftooda dhulka la samay mas'alada waxba yaan inta ka badan kugu wareerine ashaacira ahlus sunna maaha waxa la isku haystana waa sifaadka ilaahay ee kitaabka iyo sunnadu sheegeen sidooda aanu deyn iyo deyn meen waxa inta maru ka taagan yahay istawa allaana ku darin iyo waan ku dari way war istawa sideeda u daa iyo deyn maayo ayna allah xadiidka nabigu weydiiyay gabadha sideeda u siisa u daa iyo deyn maayo yeeli maayo mar gabadhii uu maagiyo jaariya mactuuha yahay duulay islaam wareersan oo waalan baa nabi maxamed ma garan waay mar wuxuu ku leeyahay ayna waa xaraam ba ma banaana oo nabigu ayna markuu lahaa may wuxuu ku leeyahay may muslim baa wax qalday marna wuxuu ku leeyahay may xadiidkan lama fahmi karo adoo gabi dhacantii la iska daayay geeda ku dhaca imaam al-bukhari baa kitaab kiisa fi sahihi كتاب التوحيد قيبت الضنبو أردن صفات كإن لا سوغو
iyo imaam albukhaari baa ashcari ka horrey abulxasan alashcari imaam albukhaari baa ka horreeyey may waxaan leeyahay ha imaam albukhaari baa ka horrey abulxasan alashcari saa darteed kama uu hadli karaaba 256 buu dhintay abulbukhaari abulxasan ashcarina 320 iyo dhowrkii ayuu dhintay laakiin ku iyaga ka horreeyey iyo ku iyaga ka horreeyey buu ka hadlayay oo jahmiyada usuusha u ah haddaad rabto kutub badan oo naafica ah kutubta aimatu sunna axaadiidta iyo riwaayaadka musnadada ee aayaadka axaadiidta aathaarta saxaabada taabiciintii aimadii afarta ahayd aimadii lixdeedii xadiidkee la yaqaanay kutubta ururisay qaado qiila waqaaladan waa abulxasan fakhridiin araazi abulcaali juwayn aakhir cumrigoodii kutubtayada hala guba yidhaahdeen waqti ha isaga dhuminin qolaa waxay tiri baa la xadiidkan ayna allahu waashaad hadda way ficnaan lahayd ninkii shuduudka caddayn kara shuduud waxaa la yidhahdaa xadiid ay hiqaad badan wada wariyeen oo ay iskhilaafeen hal ninna baal maray war ninka xadiidkan wariyey cidda uu khilaafay in la caddeeya waa jeclaan lahayn hadduu shaad noqdo waa ka tegaynaa qofna xaqa cadaawadii kama dhaxayso laakiin wargeed waayey wey aimada xadiidkuna sixada xadiidkana iskuma hayaan laakiin in xadiidkii meeluu ka maro waayey baa marba meel dardara soomaaliya warka murtidiisu ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa cid ka taqaana ma jirto aadamana ciduu ilaahay u waxyooday oo nabi maxamed alay slam ka taqaanaayay ma jirto war wixii ilaahay yidhi waxyaan yaan laga dhimin waxna yaan lagu darinay sidiisa ha loo qaato istawaa laankan lala daba ordaya ha laga daayo radiya iyo qadiba lama dhihi karadan ilaahay yidhi ee la diidan yahay ha laga daayo intii nabigu sheegay sidoo kalena calayhi salaatu wasalaam siday tahay ha loo qaato waxaan isku haynoo dhan waxaa weeye iyo allah wuxuu yidhi iyo rasuulku wuxuu yidhi sidiisa aan u qaadanno iyo maye ma aha saa saxuma ee saan wax ka bedelo haddii kale waxaad tirahdaan sidii assaawi xaashiyadiisii cala aljalaalayni fi tafsiiri baa wuxuu leeyahay waltamasuku bidaahiri lkitaabi wasunnati min usuuli lkufri kitaabka qur-aanka iyo sunnadan qabsan say u muuqataan u qaadan haddaad tiraahdo gaalnimo weyn baad geli bu yidhi oo maxaa lagu islaam noqdaa idin weydii masaa'ilu sifaat buu ka hadlaya ashcari buu ahaa haddiiba qur-aanka daahirkiisa iyo sunnada daahirkeedoo la qabsada gaalnimo ay noqoto maxaa islaam noqon bal waxa runtii ereyga uu yidhi baa kalimatu kufrin ah ilaa asalka muslimiintu waa kitaabka ilahi inay qaataan suu yahay u qaataan sunnada nabigana siday tahay u qaataan halkaasoo dagaalku ka socdaa u qaadan mayno in loo qaatana bidco weeye iyo ma ahane in la diidaa bidca iyo fisqi ah halkaa weeye halka muranku ka socdo wallahu aclam sheekh maxamed wax ku daray jazaahu llahu khayra aljazaa shaykh alislaam alla dhihi karaa jazaahu llahu sida u oofsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkiisii ha ka abaalmariyo masalada sida uu oofsaday iyo wanaagga ay leedahay ilahayna annaga nagu anfaco su-aasha halkan taal waa su-aal soo noqnoqotay oo hal su-aal oo qof ah iyo su-aal kale oo qof kale ah laakiin isu dhow farqiga u dhexeeyana wuxuu yahay wuxuu leeyahay sheekh gabar aan qabo oo xaaskayga ah oon isjecelnahay ayaa waalidkeed aan ka haysan waayey markaasaan anuu xanaaqsan 3 dalqadood ku furay shareecada islaamku maxay ka qabtaa wiilkan kalena wuxuu leeyahay gabar aan ismaharsanay oo waalidkii siiyey goor aan sugayno inaan aqal galno ayaa nin kale gabadhii igu fulusay gabadhii baa furle yidhi gabadhii baan furay gabadhii ayaa nin loo guuriyey qalin uu kula soo qoray waxaa loo guuriyey buu yidhi qabla inqidaa'i alcidda intaysan ciddada dhammaysanin marka ta hore oo nin xanaaqsan oo gabadhiisii ku furay 3 dalqadood iyo nin gabadhii laga furtay markii laga furtay nin kale loo guuriyay ayadoo ciddadii dhammaysanin alxamdulilah صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ninkan wuxuu leeyahay xaaskaygii ayaan ka haysan kari waayey waalidkeed saas darteed 3 dalqaan ku furay anoo xanaaqsan horta asal ahaan waxaan jecelnahay qadaayaga ku saabsan furiinka iyo qaabku u dhacay iyo xukunka laga qaadanayo qofku markaas uu ku camal falayo qadaayaa gelaya weeye qadiyad iyo maxkamad oo qadaa u baahan maxkamad u baahan ee aan fatwo u baahnayn fatwo uma baahna marar badan ee waxay u baahan tahay qadaa maxkamad sharciya oo kala saari karta ama dad muslimiin oo culimaahu meel jooga
sida maraakista islaamiga ah iyo maraakista halkan idin joogto oo kale oo qofku qadiyadiisii u geeyo oo gabadhii la keeno oo ehelkeedii la keeno oo qadiyadu siday u dhacday inta la ogaado xukunkeeda sharciga markaa ninkaas u mariyo sidaasay horta qadaayagana ku fiican yihiin fatwo qadaaya laga bixin karo ma haddaan anigu hadda ku iraahdo qadiyada fatwadeedu waa saas anigoon qadaayaagini waxba ka ogeyn oo adiga ku aqoon oo iyada aqoon oo waalidka saa sameeyey garanayn oo qadiyada inay saa u jirtay inaanay qaabkaa u jirin aan garanayn haddaan ku iraahdo nikaaxaaga dalaaqaagaas wuu dhacay oo aad ku camal fasho oo aad tiraahdo wadaad baa saa ii iftooday hadda ma noqonayso qadiyad hadhow xaqa ma noqonayso saas darteed walaalayaal waxa weeye horta qadaayaaga saan oo kale taa inaad u wajihdaan oo aad u geysaan dad idinku kala saara maxkamad idinku kala saara sharciga idinku kala saara waxaana ku talin lahaa maraakista idinla joogta sheekh cabdallah baa jooga halakan hadday qadiyadu halakan tahay hadday johannesburg tahay culimaa joogta hadday nairobi tahay culimaa joogta meesha adigu aad joogto culimada joogta inaad u geyso oo qadiyada laydinku kala saaro wey laakiin waxaan u hadli karnaa qadiyadaada maahane si guud ahaaneed baan anigu hadda uga hadli karaa qadiyada su-aasha aad weydiisay maaha adiga xukun aan ku siinayo nihaaya laakiin si guud ahaaneed baan kugu iftiimin masalada ah ninku in reerka horta laga fidnayo hadday saad sheegayso u jirto waa arrin qalada hadday waalidku gabadhii adiga ama kugu dirdirayaan ama kaa fitnaynayaan waa arrin qalada inay sameeyaanna ayan ahayn oo gabadha gurigeeda laga burburin taas waa qodob gabadhii haddaad furtay adoo caraysan carada yacni uyan dalaaqu la dhicahayn culimadu waxay ku sheegtay waa caro qofku uu tankii ka baxay wax garanayay ama wax dareemayay laakiin carada caadiga ah oo la isku furo badanaaba laba qof oo faraxsan oo isjecel oo isfuraya miyaa la arkay adduunka lama arag qofku wuxuu wax furaa isagoo caraysan qof walbaa wuxuu wax furayaa isagoo caraysan ama wax diidan buu wax furaya isagoo faraxsan miyuu wax furaa maya isagoo wax furaa nin isagoo faraxsan wax furaa ma jiro waa qoslahay marka carada la sheegayo oo dalaaqu aanu la dhicahayn waa caro qofku uu ka baxay xadkii uu wax garanayay ama wax dareemayay oo inqilaaq uu ku dhacay waxa culimmadu ay yidhaahdaan ama uu qofkaasu xirmay caqligiisa culimada qaarkood kutubay ka qoreen sida ibn alqayim raxmatullaahi caleyh marka taasu waa xagga qadabka dalaaqu horta wuu dhacayaa haddaa tahay caro caadi midda labaadna waxa weeye saddexda dalqadood oo aada israacisay hadday tahay yacni hal majlis hal goob inaad isku raacisay saddex baan kugu furay aad tiri waxa weeye culimada madaahibtu giddigood waxay qabaan inuu dhacayo dalaaqaas oo saddexdii dalqaba ay dhacayso oo gabadhaasu baa-in ay kaa noqonayso qowl kale oo culimmadu leedahay baa jira oo axaadiis iyo adilo kale cuskanaya oo leh hadduu yahay majlis waaxida hal dalqa laga soo qaadaya hal dalqo ayay noqonaysaa labadaas madhab baa kala jira oo haddee qofba miduu ku iftoodo ayuu maaragtay ku siinayaa mana dhammaanayo khilaafku waa suu sheekh maxamuud habeen dhaweyd sheegayay asilooyinka masaa-isha khilaafiga oo la mid ah oo fiqiga ah mas'alo weligeed culimada kasoo dhex jirtay weeye haddana jirta siina jiri doonta in midna uu ku yidhaahdo culimada way dhacday dalaaqaas saddexdaay oo israacisana qoftaasu baa-in bay kaa noqotay iyo qof iftooda hal dalqo ayaa laga soo qaadaya calaa kullin mararka qaarkoodna waxay ku xiran tahay bal arrinta xaaladaheeda in la eego ayay ku xiran tahay xaaladda in la fiiriyo masalada labaad oo ku saabsan ninkii gabadha intaa uu guursaday haddana furay mase khasab lagaga furay lagu fallisay isagoo iyadoon haddana ciddadii ka bixin nin kale lagu nikaaxi masaladan waxaa ka muuqata sida aada u sheegayso hadday tahay dhowr mushkilo oo isdul saaran waa midda koowaade ninka oo islaantiisii laga fidneeyey fillisaada waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ka sugan u leeyahay laysa mina man khababa imra'atan calaa zawjiha ama sida macnaha xadiisku uu ahaa
nin haweeney ninkeeda ka fitnaya ummaddeena ka mid maha ama inaga mid maha. aad buu u fogeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ninka nin xaaskiis qaba laga fitnayo, ama ha noqoto mar nikaaxii ugu dhacay ama inuuba la aqalgalay oo markaa uu maaragtay xaaskiisii ay tahay. say noqotoba in laga fidnayaa hadduu xaaskiisii ay tahay ma bannaana. hadday tahay doonitaan laftigeeda in lagu dulfelisaa ma bannaana. maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka muslimka ee walaalkiis khidbadiisa inuu doonitaan isna ka dabageeyo ma bannaana ilaa uu ama isagu ka baxo gabadhaa uu doonay ama uu guursado. adigu inaad soo gasho aagaas waa aag kaa xiran. qof muslima haddaad tahay aag kaa xiran waa muxaram marka arrinkaas. maxaa yeelay wuxuu samaynayaa muslimiintii inuu nacayb iyo khilaaf iyo dhibaato inuu dhex dhigo. taas waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxa weeye waa layga furay buu leeyahay, iyana waa mushkilo labaad. qodobka saddexaad iyadoo ciddadii ku jirta waa qof nikaax ugu dhacay, iyadoo ciddadii ku jirtaba haddana la nikaaxsaday. nikaaxsna waxba kama jiraan. nin haweeney uu qabo oo ciddo ku jirta nikaax ma qabanayo. nikaax qabanaya ma jiro, waa wax baatila, waxna kama jiraan wey. ninka xaaskiisii weeye khasab haddii lagaga furayo ikraahna, ikraahaas waxba kama jiraan oo xaaskiisii weeye. ninkaas inuu ceshado wixii kaloo lagu xaalayo oo lagu heshiinayo ha lagu heshiiyo haddii sharciga la rabo. saan sheegayna waa in arrinkan maxkamad ay tahay, fatwa maaha. wallahu aclam. جزاه الله خير الجزاء شيخ محمد إدريس. سائل كان وحوليه هي ما صحة الحديث، ما صحة هذا الحديث اطلب العلم من المهد إلى اللحد. سؤال الله بحوليه هي ما صحة الحديث لعن الله من نكح يده. حديث كسيد حد وحوليه قوت الحر لا بركة. وقدام بينتي وحوليه سؤال أفراد أريد أن أبدأ توزيع القنوات العامة، فهذه القنوات تتكون من قنوات مفيدة وقنوات غير ذلك وقنوات ما لا يعني. إذن الفائدة التي أحصل من هذه التجارة حلال أم مكروه أم حرام؟ وما الفرق بين هذه التجارة المذكورة وتجارة الإنترنت؟ لأن فيها خيرات كثيرة مفيدة وشرات كثيرة، وكل هذا يعتبر بتطور عالمية. أفيدوني أفادكم الله. جزاكم الله. كوريجينا يا شيخ محمود شبلي. الحمد لله. لغدين ku jawaaba. طيب سائلكم إنه الصومالي ما الله بعد الصومالي عليهم سوقري. على كل حال أحاديث سدح ذا منا ماسح. اطلب العلم من المهد إلى اللحد لعن الله من نكح يده. يا حديث كان سدح هذا قوت الحر لا بركة فيه. سد حديثه معروفة وهي منا ماسح. سد حديثه ضعافة وهي مسألة القنوات كنا سكوبا السبب وحوش إن حني إن في عم بيسوي شرته أنت حن هدوت إذا وحيوان بنانينه كان الله حن إيو كان ليس حن أو حارانة يكون في عنا وبنان بيسوي شرته هذا وشيء تهاي وعناعس يسوي شر حلال يا حرام حولها تكهشنا ومال مختلط من الحلال والحرام يا قدر كحلاشنا وحلال قدر كحرامتنا وحرام qadarka xaraamta iyo kanaaladooda inaad ka ganacsato ma banaana. inta fiicanna ka ganacsigeedu waa bannaan yahay. inta umaana lagu dhihi internet iyo qofkii wax kale ka ganacsanayana inta unbaa lagu dhihi haddaan la kala saari karin oy tahay imaa wada daa wa imaa xaaraan wada samee. asalku taxriim weeye inayna bannaan inaad ka shaqaysato weeye. ganacsi kasta ood ku qasban tahay lagu yidhaahdo ilaa xaaraan ka ganacso ma bannaana ganacsiga. haddii la kala qaadi karo inta xalaashaana waa xalaal intii xaraamana waa xaraam. wixii tan kaa soo galay waa xalaal wixii tan kaa soo galayna xaraam weeye. kolba qadarkeedii intay tahayna adigaa lagaa rabaa inaad wixii xaraama iska dayso wixii kaa soo galayna isdhaafiso. wallahu aclam. جزاه الله خير الجزاء الشيخ محمود. سؤاشان waxay leedahay waxaan isku arkay oo isoo raacay kaadida kadib dhiig oon dhiiga saxda ahayn markaan arkayna salaadii waan iska dhaafay. mar dambe waan waayay dhiigii salaadii aan iska dhaafay ma soo qallaynaya? alxamdulilah. gabadhan waa gabar baan filayaa waxay leedahay dhiig baan isku arkay kaadida soo raacay. ma ayan sheegin waktigii caadada ay ka dhaqatay miyaa mase waa wakti ka dambeeyey oo ka fog.
waqtigii caadada miyay ahayd mase ma ahayn. calaa kulli xaal waxa weeye gabadhu waxay salaada daysaa dhiigga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xiray inay salaada iyo soonka iyo cibaadadka ka joogayso oo ah xaydka iyo nifaaska, taasoo sharcigu ku xiran yahay. mar haddii xayd wax la midihi uu joogo ama astaantiis ay joogto ama waqtigiisii la joogo, salaadii iyo soonkii way daynaysaa. soonka way soo celisaa laakiin salaada ma soo celiyaan. haddii dhiiggu u yahay dhiig aan labadaa midna ahayn oo calaamadihii ay ku garan jirtay iyo waqtigii la garan jiray midna aan ahayn, salaadna looma daynayo, cibaado kalena looma daynayo. hadduu xataa yimaado waqtigii xaydka oo uuyan xayd ahayn waqtigiisii xataa ay tahay ama uu dhaafay oo midabkiisii iyo caraftiisii iyo astaamihii lagu garan jiray iyo waqtigii lagu garan jiray intaba midna aanu ahayn, wuxuu noqonayaa dhiigaga kale oo la sheegay ama xidid ama istixaada ama waxa loo yaqaano xidid furmay iyo wax la mid ah. hadduu yahay mid jiro ah sidaasoo kaleeto kaadida iyo waxaa soo raacay. marka haddayan waqtigiina ahayn, dhiiggii caadada waqtigiisiina uyan ahayn, waqti kalena uu yimi, dhiiggaas waxay u badan tahay inuu yahay dhiig ama cudur ah ama xidid ah. saas darteed maalinta aad salaada ka tagtay salaadeedii inaad soo celiso siday ugu muuqato. wallahu tacaala aclam. sheekhaan u daynaya hadduu insha allah idaafa. جزاه الله خير الجزاء شيخ محمود. شيخ محمد إدريس labadan su-aalood waa laba su-aal oo ayagan iska agdhow. saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh, waxaan ku weydiinayaa zakada ma ka bixinayaa dukaan sigaar lagu gado? saa'ilkanna wuxuu leeyahay lacagta ribada ah ee bangiga aan ka helo viga iskuulka ardayda ma looga bixin karaa? zaka ahaanse ma loo bixin karaa lacagtaas? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد ولا بس سؤالات. سؤال كوبات xoolahan sigaar ka shaqeeyay zaka ma ka bixinaya? maya, waad wada bixinba. xoolahan sigaar ka shaqeysay waa xoolo xaraama. xoolo xaraamana inaad iswada dhaafiso weeye. sakada haddaad ku xalaalaysata rabto, haddaad zakadii qayb bixiso qaybun baad bixisay, intii kalena inaad isdhaafiso waa lagaa sugayaa ood masaakiinta iyo meelaha mudan aada siiso. horeyna aan su-aalihii hore uga soo jawaabno uga soo hadalay. su-aasha labaad ee ribada, zaka ma laga bixinayaa? ribo zaka ma laga bixinayaa? sigaar zaka ma laga bixinayaa bay la mid tahay. amwaasha xaraamta milki khaasa uma yeelan kartid. waa milki iyo maslaxo iyo danguud bay milki u tahay. adigu inaad isdhaafisaa lagugu leeyahay, laakiin asal ahaan kuma banaano inaad haysato. wixii aada bixiso waa wax lagugu lahaa inaad bixiso. kaad la hartayna inaad dhammaystirtood israacisaa lagaa sugayaa. ribada caruurta fiigooda ma ku bixin karaa? maya. masaladana su-aasha horaa looga soo jawaabayo waxyaabahan ribada ka imanaya fii kuma bixin kartid. ganaax gaarigaaga la ganaaxi kuma bixin kartid. canshuur lagaa raba kuma bixin kartid. laguma ogola inay ku baxaan wax sinaba manfacadiisa iyo waxtarkiisa adig kugu soo noqonayo. haddaad fiigiisaga bixiso, ilmahagii baad wax ku bartay oo xoolihii lagugu lahaa ilmaha wax ku baran lahaayeen baad ku intifaacday. haddaad ganaax isaga bixisa waa ku intifaacday. haddaad canshuur iskaga bixisa waad ku intifaacday. adiga inaad ku intifaacdabaa kuma banaana si toosa iyo si dadban midna, si shaksi ah inaad ugu intifaacdo. xoolahaasi masaakiin iyo masaalix caamaale isdhaafi. waa maal aan milkigaaga sharcan ku jirin ood ku takrifalaysa weeye. dan iyo baahi adi aada leedahay in aad ku qabsanayso. wallahu aclam. جزاه الله خير الجزاء شيخ محمود شبل. su-aashan labada su-aalood waa ayagan iska agdhow yihiin. waxa uu leeyahay saa'ilkan ma la barakaysan karaa dadka saalixiinta ah? su-aasha labaad waxay tahay marka aan aadno janaasooyinka ee aan aasna meydka ayaa nin wadaada intuu istaago wuxuu yidhaahdaa qur-aanka inta taqaan gacanta kor ha u taagto. markaasaa gacanta inta la taago wuxuu yidhaahdaa jimco sabti axad isniin talaada arbaca khamiis jimco sabti axad. markaasuu qur-aanka qaybiyaa. marka qur-aanka la bilaabo akhrintiisa ayadoo aysan ka soo wareegin qadar dhan 5 daqiiqo ayaa la yidhaha bismi illah allahu akbar faatixa
arrinta shariicada islaamka ay ka qabto waa maxay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد سؤالها نكن isaga igu celin doone tii hore maxay ahayd saalixiinta ma la barakaysan karaa ha oo maya wad sharcigu ogol yahay in baraka looga raadiyaa jira oo ducadooda inta loo tago in la yiraahdo ilaahay ii bari adaan rajeynayaa inaad iga dhowdahay waana nin nool waana sidii saxaabadu samayn jireen maca nabiyi sala allahu calayh wasalam oo ilaahay noo bari ay dhihi jireen markuu geeriyoodayna qabrigiisa maanay aadine markay abaarihii dhaceen roob la-aanta cumar wuxuu u yeeray nabiga adeerkii cabbaas oo wuxuu yidhi ilaahay roob noo bari qofka muslimka ee nool eed filaysa khayr iyo cibaado iyo salaax inuu kaa badan yahay eed isleedahay ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa waa kaa badiyaa waxaa la filaa qofkaasoo kaleeto in ducadiisa laga hor aqbalo ducada kale saasaa la filaa oo loo badiyaa qofka sidaasihi ee khayrka iyo wanaagga lagu yaqaan ama aada ku taqaano ama aad adigu khayr iyo wanaag iyo toosnaan iyo alla kacabsi ku filayso waxaa loo barakaysan karaa inaad tiraahdo adaa iga cibaadiya taaco badan ilaahay dhibkaas ay haystee ii bari ilaahay waxaasaan u baahnay ii bari si gaaroo adiga iyo si guudo ummadda ah haddii taa looga jeeda ma la barakaysan karaa haa oo ducadiisa ilaahay inuu kaa aqbalo oo khayr taada ka badan oo ka degdeg badan aad ku hesha la rajeeyo waa la ogolyahay hadday tahay barakaysigu isaga ma la isku tirtiri karaayo ma la isku xoqi karaa ama qabrigiisa ciid ma laga qaadan karaa ma la dawaafi karaa hadday tahay maya bidac wey masaladaana masalo asal islaam iyo muslimiin u leeyihiin ma aha waa mas'alo laga soo muslimiinta inta sheegata bilaabana nimanka shiicada ama raafidada taariikh ahaan ugu horeeyey hadyigii nabigeena calay salaam saxaabadu ay ka dhaxleenna inaan qofka jirkiisa iyo cid kale wax laga raadin bay ahayd saxaabadii nabiga jeclaa ee nabiga biyihiisa iyo candhuuftiisa ku dagaalami jiray weligood abubakar intay taabteen nafacana allaahu bihi maynan dhihin weligeedna lama hayo nin cumar intuu u yimid uu masaxay oo tuutuujiyey gacmihiisa dib u dhunkaday lama hayo markay geeriyoodeen saxaabadii shuhadaa uxud baa geeriyooday raggii beder ku aasnaa baa geeriyooday oo ummaddan dabaqaadkeeda ka jamaacaanku ugu khayr badnaa ka mid ahaa 10kii jannada lagu bishaareeyey baa geeriyooday weligood qabrigooda lama aadin ciidna lagama qaadanin gabrigoodana la iskuma tirtirin lamana tawaafin intaa waa kuwa la hubo ee nas nabi sheegay inay ahlu janno iyo ahlu khayr yihiin intii nabiga ka dambeysay cidda khayr ugu badan ee xadiid ku sheegay waa uways alqarani uways alqaranina cumar markuu la kulmay wuxuu yidhi noo ducee khayr buu nabigu kugu sheegay haddii uways alqarani dhintay qabrigiisii meeluu ku yaallaba cidi isma weydiininoo ma taqaan cumar baa wuxuu arkay radia allahu canhu laba dhacdo oo arrimahan la xiriira baa xilligii cumar dhacay midi waxay ka soo jeedaa nabiga calay salaam baycadii qur-aanku sheegay baycatu ridwaan yubaayicuunaka laqad radia allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati geedii cumar wuxuu arkay xilligii khilaafadiisii dad baxayoo meel aadaya war dadkan xaggay u socdaan geedii baycatu ridwaanki khayrka badneed hoosteeda ka dhacday bay aga fadhiistaan baa la yidhi waa tegay geedii waa gooyey xididadeedana waa saaray dhulkiina ciidduu la simay maalinkii dambe geedii meelay ku tiilayba waa la garan waayey kas buu raadkeeda u gaday shirki baa halkaa ka soo socda geedan maxaa laga barakaysan bayca dhacday baycadiina way dhammaatay dadkii baycada galay baa ajir iyo nasiib helay qofka geedka aga taagtaagan muxuu ka rabaa geedda waxaa la mid ah dhacdada kale oo cajiibi intaanan sheegin xajarul aswadka waa la taabtaa waana la dhunkadaa cumar baa soo maray isagu waa og yahay laakiin cashir buu dadka siinayaa wuxuu leeyahay dhagaxyahu waxaan ogahay inaadan waxna tarin waxna dhimi karin haddii aanan nabiga ku dayanaynin calayhi salaatu wasalaam oonan arag nabigoo ku dhunkanayo kuma dhunkadeen laakiin waxaan kuu dhunkanayo nebi maxamed baa ku dhunkaday keliya wey laakiin ma aha inaad waxna yeeli karto waxna ii dhimi karto cumar xilligiisii sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu wa ardaahu saxaabadii uu hogaaminayey waa kii ardulciraaq la furtay
waxaa loo tegay gurigii boqortooyadu waxaan leeyahay waxaa la furtay dhulkan khuraasaan qaybo ka mida la tegey waxaa loo tegey ninkii madaxtooyadoodii guriga madaxtooyada qol xidhan baa loo tegey qolkii haddii la furay qof meyda oon isbedelin oo sidiisoo hadda inuu naf baxay aada moodi in yar meel ka yar xagantay keliya baa loogu tegay oo daray ah haddii la waraystay waxay dhaheen waa nebi daanyaalkii ambiyadii reer bani israa'iil ka midka ahaa oo maxaad samayn jirteen markay abaar nagu dhacdana bannaankaan geyn jirnay markaasaa roob noo da-a waan barakaysanaa halkaasuu noogu jira cumar baa loo soo diray fariina waxaa leeyahay amiir almu'miniin arrintaasoo cajiib nagu abaan aragnay aftina noo soo fatwo waraaq buu soo qoray abulcaaliya ka sheekaynaya oo ahaa ninkii warqadda soo qaaday wuxuu leeyahay cumar wuxuu i yidhi waxaad ku tidhaahdaa habeennimo dhowr qabri oo kala duwan ha la qodo habeennimo ha lagu aasa mid ka mida dhowr qubuurtiina ha la wada duugo si loo garan waaya meel lagu aasayba ogow qabrigii la barbarakaystay inta la saara meelaan la garanayn in lagu aaso cumar baa bilaabay radia allahu canhu wa ardaahu hadigii saxaabada wakaa wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina wataas weligiin ma maqasheen qabriga abubakar baa lagu diiqayaay oo la barakaysanaya weligiin ma maqasheen qabrigii cumarna cuhmaanna calina sacdaynkii away nabiga adeeradii away ummahaatu lmu'miniin away cashara almubashariin biljanna away qubuurtii shuhadaa uxud iyo beder away raggii diintan u soo halgamay qubuurtoodii oo weli loo aadayo oo sanad guuriya lagu qabanayo oo la barakaysanayo weli ma maqasheen wadaad shalay joogay unbaa la dhihi qabrigiisa waa la isku xoxoqi oo ciid baa laga qaadan waxaan kusoo gebgabeyn qiso cajiib ahayd wadaad baa waxaa suuqa la geliyey ninkii taabta waa ahlu janno wuu nool yahay wadaadkaasi ninkaa weli waa nool yahay dadkii oo dhan ba waxay dhaheen nin walba waan taaban markaasuu lafihiisa u baqay wuu cararay oo geed buu fuulay ul baa lagu soo taaban marka inti geedkii lafanta ushaa lagu soo taabtay ninkii taabtay waa ahlu janna la yidhi si ushii kolba loogu mudayey buunu ka soo dhacay iyo xanuunkeedi iyo duritaankii waridaaya nag ma leh markay naftu qabatayba wuxuu yidhi meeshii meelheble ahayd biyaha ku jireen ninkii ka caba ahlu janno wey ordee figix baa la siiyey nin raggii kamid a ii sheekaya aniga marka wuxuu yidhi orodkii intii baan orod gaabnaay layga badiyo biyihii layga dhamaystay baan dhoobadii wax ka ruugruugay yidhi qoyankeeda wallahu aclam su-aasha waa midda hore ta labaad maxay ahayd qur-aanka qubuurta lagu aqrinayo qubuurta qofka haddii la geeyo sharcigeenu qofka dhintay qof musqul galay buuba wuxuu samayn lahaa sheegay gelitaan ilaa bixitaane qof muslima oo dhintay oo xayaatadan faaruqay oo la sagootinayay kama aamusin shariicadeennu wixii la samayn lahaa markuu naf baxayo indhaha ha loo laaba laga bilaabo shahaadada ha loo qabto ilaa la dhaqo ilaa la kanfo ilaa lagu tukado ilaa la qaado ilaa la aaso nabigeenna calai salaam sameeyey dardaaran badanna ka tegay kutubta fuqahadeennana way ka buuxdaa qofka haddii qabriga la tago qubuurtu waa masaakin ay degan yihiin dad muslimiina in lagu istaago in lagu qayliyo in wasakh lagu daadiya lama ogola say guryahooday adduunka muxtaram u ahaayeen baa la rabaa qubuurteeda in loo ixtiraamo in la isaga tunto sida innagu aan samayno lama ogola bal nabigu calai slam nin qubuur dhex socdaoo kabaqabuu arkay markaasuu wuxuu yihi yaa saaxiba sabtiyatayni alqin calayk waar ninkaa labada kabe ee saanta a qabow sii buu yihi kaba qubuur buu dhex socday waayo guriga muslimiinta guriga markaad timaadaan gogosha hadda kaba miyaad la dhex qaadaan ka waran ninkii gurigii si fiican u goglanaa kaba bashla war kabaha siibso lama dhaho nabig wuxu war kabaha siib buu yidhi qubuurta saasaa loo ixtiraamaa marka la yimaado haddii janaasada laga soo horeeyo dadka waa inay khushuuc iyo xasuusta geerida iyo alla kacabsi iyo calaamad towbad ay ka muuqato wey innaga qabriga kuwa qodayaa kaftame mararka qaarkood aan arka jiray waa la iscaayiba qabriga lagu jira ilkuu qodaya waana caytamaya soomaalida qaarkeedna maxay dhahaan qabriga markay ciidda ku rogayaan maya taa maaha niman ragahoo xoog badanoo
qabri ciid ku rogayo ninkay aaseen caayaya maartay idinku li anada qaybta hore ma sheegi kara afka ma soo marin karee walba kiisaa ahaayow dambi kugu tiri ciiddi buu leeyahy qaarkii baa inta hore inay gartaan laga yaabaa inta bannaan ee dhibicdhibicda idinkaa buuxin doona dhaqankaasi dhaqankii islaamka iyo muslimiinta iyo aadaabtii ka mid maaha geeri baa taalla meeshii godkii loo socday ee la isku waanin jiray baa yaalla nin baa yidhi baa la yidhi arkaysaa maqlaysaa in la dhimanna waad maqashaan in la dhimanna waad aragtaan aakhare in la iscadaabina waad maqashaan dhimashada waa aragtaan godkaas marka la keeno haddaynu ka soo horreyna way dhacday xilliga nabiga alayh salaam waa maalinku cadaabulqabriga dadka uga sheekaynayo qabrigoon dhammaystirnayn bay yimaadeen qabriga haddii la aaso hal wax baa sunna hal wax baa sunna laa qur-aan baan sunno ahayn walaa talqiin iyo haddii lagu weydiiyo saa dheh man rabbuka haddii lagu yihahdo allah dheh man nabiyuka allah waxaas waxba kama jira been wey saliya raatoona male bidca iyo baatil wey qur-aan la aqriyana meeshan looguma talagelin nabigu markuu dadka aasay wuxuu dhihi jiray qofkan walaalkiina haddaa la soo noolayn haddaana su-aasha la weydiin inta neef la gowraco yaraha korjooga ilaahay waxaad uga baridaan inuu kelimadda jawaabta xaqa ah ku sugo wasaluu lahu tathbiita fainahu alaana yus'al haddaa la weydiinayaaye ilaahu xaqa ku sug ilaahu towfiiqda waafaji imtixaanka aakhira la isuma qisho haddii saa lagu yihahda saadhe daaqad laga leeyay imtixaan lagu jira maaha qof walba wuxuu rumaysnaa buu ku jawaabay maxaa waxtar leh ilaahu xaqa waafaji ilaahu jawaab fiican wanaaji ilaahu towfiiqda waafaji ilaahu su-aalaha kii ku guulaysta ka dhig ilaahu imtixaan ka badbaadi intaa waya waxa la rabo qur-aan ha la soo aqriyadanna 7 subac laleehi kala qaata waxba lama aqrina maxaa la kala qaatay waxay xasuusinaysaa wadaadadii kunka yaasiin 5 daqiiqa ku akhriyi jiray weligii kun yaasiin 5 daqiiqa ma ku akhrideen yaasiin yaada u horeysa وإليه ترجعون نونك ودن بيا لسوا قوانا يانا أبو كله بقول يانا بقول كن ياسين بو توضغ وكو أخريب معنا وحن مسق ماسق نوع سوكرتا حتى القرآن هدو أقري لها وصف عنه ولا أقري كشيكنا اللي شيء تدعي معك عاد عليها نن بقول قل والله آخر لديه كاس وحلي قل هو الله كو قل هو الله والله قل هو عيا قرآن سبع الله قاطع مال لك قرآن آداب الجنازة والدفن مالنا ككينان والله أعلم. جزاه الله خير الجزاء شيخ محمود. سؤال شكله وحي لهذا هاي ونين وحوليه إنك تيجي أيام كويري إصدر سعادة عرور أولين سيدا درادد مدن ببا هدان ساسميو. الحمد لله. نكان وحوليه حاسكي سيايو حكويري إصدر يعني عربضها لغو دفتو مداوها لغو سيو سعادة المودلين. arrinkaasu ma dembi baa jawaabtu haa wey waa dembi sababtoo ah haddii aanay jirin wax sababaho keenay arrinkaas ama caafimaadkeeda ah oo iyada nafteedii loo baqayo oo dhakhaatiiri ay sheegtay ama wax kaleeto oo keenay oo daruuro ah ma amri karo inay joojiso ama xataa isagu iska joojiyo dhalmada maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray inaynu baadino ubadka iyo guurkaba sidoo kale waxyaalaha guurka la isu guursado waxaa ka mid ah ubadka iyo nasliga marka inuu iyadii hadduuyan isagu doonayn iyadiina ka xarimo u diido iyaduna ma bannaana saas darteed jawaabtii oo kooban arrinkaasu ma bannaana waa inuu ka toobad keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keeno si joogto ahna inuu haweentiisu dhalmada u dayso aanu ka shaqayn waxaa dhici karta haddii la yiraahdo masalan gabadha caruur badan bay dhashay oo isa soo gaargaartay muddo ma loo dhaxaysiin karaa waqti kooban taas culimadu waxay yiraahdeen way bannaan tahay haddii labadoodu ku heshiiyaan ama dhakhaatiirtu ku taliyaan ama iyagu maslaxo u arkaan inay caruurtii xoogaa kala koriso oo yarahis gaargaaray ay kala durkiso xoogaa sanad ama 2 ama 3 wax saas ah oo muddo kooban ah iyada hadday ku heshiiyaan waa la yeeli karaa laakiin si daa'im ah in loo gooyo maya wallahu ta'ala a'lam. فضيلة الشيوخ جزاكم الله خير الجزاء وحوليها سائل كان وهابية ما بدعة
marka ay leeyihiin istawaa bidaati? alxamdu lilah su-aashu tii horey daba socotaa anuu magacu hore aan kuu sheego oo muhim imahe masaladan maxaa cabdiwahaab oon dhalan bay taagnayd kutubtii la qoray isagoon dhalan isaga waxaan u malanayaa dhimashadiisii 200 iyo waxoogay sanaa laga jooga 1200 oo sano ka hor bay qoran tahay oo masaladu taagnayd hadduu dhasho iyo hadduusan dhalanna iyo hadduu jiro iyo hadduusan jirinna waxba ka bedeli maysa masalada isna wax kuba soo kordhin karo hadduu ka weecdo seeftu way qaadi isaga laftiisa hadduu ka weecdo seeftu way la tegi xaqa iyo sunniya daliil baa jiray hebel iyo qiila waqaala wax ma tarto istawaa bidaatihi ma lahayaa lafdiga bidaatihi ah anu aayadna kuma arag xadiidna kuma arag laakiin fahamka inta culummadu ay qoreen ee rahaarta saxaabada iyo taabiciinta laga warinayo ay keenayso ilaahay culuwiisa marka laga hadlayo culuwigu waa laba mid la iskumaba diidanaba culuwu makaanatin oo darajadiisu alla inay sarraysataa muran kama taagnaba ilaahi subxana wa tacaala cilmigiisa fii kulli makaanin inuu yahayna muran kama taagna waxa ahlu sunna iyo ahlulbidac ay isku hayaan waa culuwu daati weeye waxa la isku haysto haddii maxaa cabdiwahaab adoo dood ka qabtana imaamu shaafici baa leh oo imaamu maalik baa leh markii istiwaha la weydiiyey maalik wuxuu yihi alistiwaau macluumun macnihiisu waa la garanayaa luuqadoo dhan bay ku cadtahay qaabkeena lama garanayo su-aashaad wadwada lafteedana bidca iyo mubtadicnimo weeye ninkii warka wadayna wuxuu yihi golaha iga saara bele iyo shaydaan baa wadoo ku shaqaysanaye majliska iga saara buu yihi akhrijuu canii hada almubtadic almubtadica golaha ii dhaafiya buu yihi masalada muran kama taagna waxa culimmadu kutubtaba ka qoreenna waa ilaahay bidaatihi inuu kor jiro wey ashaacire laakiin waxay dheheen baa idiin sheegi ilahi waxay dheheen kor ma jiro haye hoosna ma jiro horay ma jiro gadaal ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro xaggee jiraa marka caalamka kuma dhex jira kamana baxsana idinku meeshuu jira ii sheega warkaa haddii la dhiraan dhiriyo waxaad ka cararteen ka xuno ma jiro wey idinku waxaan jirin bal ii tilmaamo horay ma jiro gadaal ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro kor ma jiro hoos ma jiro inalama jooga inagama maqna halkaa way halka ashaaciradu midda labaad waxay yidhahdeen ashaaciradu mawjuudun fii kulli makaanin soo maa cilmigiisa iskuma hayne bidaatihi maad leedihiin waxaad ka cararteen kor buu jiraa jiha la sugi baad ka cararteen laakiin meel walbuu joogaa musquluhu joogaa bay ka dhigan tahay meel walba soo musquluhu ka mid maaha ilahay meel walba waa joogaa musquluhu joogaa bay noqon ilaahay kor buu jiraa iyo meel walba waa joogaa tan iyo musqula waa ku jiraa yaa xun ilahay kor inuu jiro ayna allaahu alla xaggee jiraa gabar yahay fi samaai rasuulka ilaahay oo kor buu jiraa intii weliba gacanta taagtay riwayad waxay kor bay u taagtay abulmacaali aljuwayni baa masaladan lagu yar kari waayey isagoo majlis cashir fadhiya nin baa istaagay wuxuu yihi abulmacaali aljuwayni usa su-aal baan ku weydiiyey maxay tahay buu yidhi aayad iyo xadiid iyo halkaa iga dhig qof kastoo ilaahay baryaya muxuu kor gacmaha ugu taagaa kor u fiiriyaabu wax hoos fiiriyo midig fiiriyo bidix fiiriya dadka maxaa looga waayey jiq way ku xirantay kursiga uu ka kacay isagoo le xayaran ilhamadaani ninkaas ay wareeriyey su-aal igu xirantay oon jawaab u waayey buu ii keenay saa darteed niman yahow istawaa alla kor buu jiraa maxay ka dhigan tahay cilmuhu fii kulli makaanin qaar waxay dhaheen mawjuudun bilaa makaan mawjuudun bilaa makaan maxaad uga jeedaa waa un tafsiirkan jahmiyadii horay gadaal maya xagga ma jiro xagga ma jiro xagga ma jiro saa darteed waxaan leenahay almucadilu yacbudu cadaman ninka sifaadka ilaahay istiwihiisiyo diida warkiisu wax aan jirin buu caabudayaa wax aan jirin buu caabudayaa waayo ilaahaan korna jirin hoosna jirin khalqiga ku dhex jirin ka dhex baxsanayn midig jirin bidix jirin horey jirin gadaal jirin wuxuu ka xishooday ma jiro laakiin warka nuxurkiisu ma jira wey wallahu aclam jazaahu llahu khayr aljazaa sheekh maxamuud saa'ilkan wuxuu leeyahay qofka waswaaska qaba marka uu xiranaya salaada ama marka uu salaada ku jiro qur-aanka uu akhrinayo waswaaska qaba weliba uu ii suureeyey wuxuu leeyahay allahu akbar waxaa kaloo ku suureeyey faatixada bismi llah oo safkii oo idil uu gaarsiinayo maxay sharcada islaamku ka qabtaa sideese qofkaas looga daaweyn karaa waswaaska intaasa
الحمد لله qofka isagaa la sheegayo waswaas buu qabaa waswaaskuna waa min ashayطaan aladi yuwaswisu fi suduuri الnaas min aljinnati waannaas shaydaan baa marka ku wareerinaya shaydaan baa kugu shaqaynaya salaada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida ka sugan waxa weeye haddaad salaada u istaagto qiblada u jeensto oo takbiirso qiblada u jeenso oo takbiirto allahu akbar baad leedahay wax kaleeto oo markaa la dhahayo ama la akhrinayo ma jirto haba yaraate waa takbiira niyad baan la sheegahayn wax kalean la sheegahayn waxayna uu ku daawoobi karaa inuu haddee ilaahayna subxaanahu wa tacaala weydiisto inuu shaydaankan ku ciyaaraya rabbi subxaanahu wa tacaala ka magan galo acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim ima yanzaqanaka min الshayطaani nasqun faاstacid biاllah inahu huwa الsamiicu اlcaliim waxaa la mid ah inuu weysada saas oo kale dadka qaarkiis ay waswaas uu shaydaanku ka geliyo uu yidhaahdo maadan weysaysan waxbaa kaa yimi meesha markaba uu musqusha ama meesha weysada uu ku jiro saacad ama saacado ay ku qaadato waana jiro weeye uu shaydaanku keenayo ayna keenayso adigu inaad isu hoday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa shaydaanku inaanu suldaan inagu lahayn yacni xoog iyo quwad inakuma leh inagu haddaynaan u hoggaansamin adigaa marka u hoggaansamaya marka uu ku waswaasinayo waxaana u daliila maalinta qiyaamo beri buu kaa noqonaya oo bani aadamkii uu lumiyey oo dhan wuxuu leeyahay war anigu khasab idinkumaanan lahayn wamaa kaana lii calaykum min sulطaanin ilaa an dacawtukum faاstajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiy marka berita saasuu uga gaashabanay kuwa shirkiga ku riday kuwa kufriga ku riday kuwa waswaas ku riday kuwa macaasida ku riday kullu beri buu ka noqonaya wuxuuna leeyahay war anigu xoog kuguma lahayn iyo khasabtoon adiga waan kuu yeeray waa i ajiibtay marka waxaan leenahay walaalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kaa daaweeyo waswaaska ilaahay subxaanahu wa tacaala ka magan gal alle subxaanahu wa tacaala ka bari adiguna go-aan gaar oo iraado gaar oo allahu akbar leh mar dambena waxaas waswaaska ha isku soo celin hana ku fekerin wallahu aclam bismi illah alxamdulilah waxyar baan ku dari waswaaska takbiirta allahu akbartu saddex arrimood baa qeyb weyn ka ah kow bidca bacdu mutaakhiri shaaficiyati ay takbiirta ku dareen oo ah takbiirtii iyo niyadii waa talafud baa sunnaha oo usalli la yidhaahdaa waa bidca bacdu mutaakhiri shaaficiyati ay leeyihiin iyagu waxay ku cileeyeen carabku si uu u xoogeeyo limaa fi lqalbi masaladaa bidcanimadeedu iyaga laftooda way qirsan yihiin cahdigii salaf iyo saxaabe iyo inaan la aqoon jirin sheekhuna waa sheego wuxuu yidhi xadiidka nabigu wuxuu aha idaa qumta ila salaati salaad haddaad u istaagtaa fakabir allahu akbar dheh usallii dheh lama dhihin usallii dheh cidi kuma dhihin haddaba usalliidaa inay bidco tahay yaa sheegay fuqahada shaaficiyada laftoodaa sheegay oo yaa ka mida shihaabudiin aladraci yaa ka mida oo xaggay ku qoran tahay masalada lafteeda muqni lmuxtaajka fii sharxi lminhaaj watalafudu biha sunnatun markuu yidhi bal qaala aladraciyu bal hiya bidcatun kitaab iyo sunniya salaftoona kama sugna shihaabudiin aladraci oo muqni lmuxtaaj khatiib shirbiini kasoo guurinayo halkaa ka doon haddaad rabto meesha kugu dhoweed ka heli karta macna ahaanna waaba khaladba salaada allahu akbar xiraa lagu yiri adi horta riboodka yaad siinaysaa warbixinta waxaan tukanayaa salaad hor yaa u sheegaysaa niyadu waa qalbiga allahu akbarna waa lagaa rabaa laakiin wixii niyada ku jiray baad ribood ka warbixinaysaa yaad u warbixinaysaa waxaan tukanayaa keligii way ogow salaad duhur oo 4 ragcadooda oo waqtigeedii la joogo ayuu warbixinta siinaya xataa macnan khata way tiiba waxay keentay kow waxay dhigtay dhagaxa koobaad ee waswaaska takbiirta qolo mutaakhiriintii ah baa qaarkood si qaab daran oo khata ah muxashiinta baa ku tashdiidiyey dadkii wax aynan kari karin wama anzala allahu bihi min sultaanin ah
oo waxay fasireen salaadii allahu akbar markaad leedahay waa inaad niyooto salaad inaad gelaysa duhur ama casar ama maqrib ama cishe waxay dhaheen waa inay niyadu awal lafdatin ay la xiriirsataa iqtiraanu niyati biawali kalimatin haye awali kalimatin maxaa looga jeeda allahu akbar hamsadaas u horeysa waa inay niyadii xaadirta wax yar hadduu wax ka noqdana bas wey salaadaadi xog kama jiraa lagu yidhi dadkii muxashiinta mutaakhiriinta dambaa wey asxaabu alxawaashi qofkii waxaa mushkilad ku noqotay horta markaad lahayd niyadaadi ma joogti markuu yidhahda shaydaanku wuxuu le may maadan niyoon acuudu billahi min shaytaan rajim acuudu billahi min shaytaan rajim harro xoqaana waxooga waxbuu iska dhabaan dhabi salli farda may markaad maraysa maadan niyoon halkaan buu shaydaankiina u fariistay shaydaanka halkaan buu fariistay acda iyo niyadu waa inay iswaafaqaan ma ismuwaafaqin way ku soo celin waxaa laga yaabaa 4 ragcadood inay ku dhaafto 4 ragcadood inay dhaafto 2 inay dhaafto dadki inuu waswaasiyo waxaasna waa tashadudka fii gayri mawdicihi markii la dhiga mashaakil buu dhalaa usallina lagaama rabo sheekh manhaajka noo akhriyi jiray allahu naxariistaba wuxuu yidhi maalinkii dambe wuxuu rabay inuu naga dhaadhiciyo usalli salaada ka mid maaha usalli salaada ka mid maaha salaaddu allahu akbar ay ka bilaabataa wuxuu yidhi markii dambe markuu nagu celceliyey baa dad baa yar geli weyday wuxuu yidhi waryaa hoy dhegeysta salaaddu waxay ku asixi usalli farda duhri 4 rakacaatin adaa'an lilahi tacaala muqtadiyan gaal dhalay baatay allahu akbar baa asixi buu yidhi macnaa intaa aad soo hadlaysay salaad maadan gelin weli allahu akbartay salaaddu ka bilaabataa walidaalika salaadda waxaa la yidhi aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri bay ka bilaabataa saa darteed horta usallidan iska daaya waswaasku idinka yaraan ta labaad tashadudka fuqahadan hamzada iyo niyadu waa inay xiriiraan tanatuc iyo tashadud wey waad soo istaagtay maxaad u taagan tahay salaad casar inaan tukado waa u soo weysaysatay shaqadii baad ka soo tagtay masaajidkii baad soo gashay safkii baad soo istaagtay imaamkii allahu akbartiisaad sugaysaa maxaad intaa u taagan tahay salaad maqrib inaad salaad maqrib tukanaysa adoo xasuusan baad allahu akbar tiri wax kaloo lagaa raba niyadii waaba intaaba tawaafuquna intaa wey keliya waxaa la diidan yahay adoo gaari suuqa kaxaynayo madaxaagu maqan yahay allahu akbar inaad iska dhahdo adoo ku talagalay laakiin salaaddii inaad gasho xasuusan haddaad allahu akbar dhahday niyadii iyo iqtiraankii asalkiisii waa la hayaa halkaa waswaas badan baa dadka kaga yimide mas'aladaas ha laga warqabo ha la ogaado wallahu aclam jazaahu allahu khayr aljaza sheekh maxamuud saa'ilkan wuxuu leeyahay shaykhana maalin ramadaan ayaan waxaan ku dhacay buu yidhi xumaan marka allana waan uga towbo keenay maxaa la iga rabaa hadda ma kafaara gudis mise qalle alxamdulilah maalin soon ayuu ku dhacay faaxisha saan u fahmay zina ah oo weli aan xaaskiisii ahayn marka maalinta soonka waa maalin xurmo leh saan ognahay oo aanay bannaanayn jimaac iyo tacaam iyo sharaab wax la cuno wax la cabo hadal xun oo dhan laga dhowrayo qofka muslimka ah xaaskii xalaasha ahaa baanan kuu bannaanayn maalinta waxaa ka laasimaya waxa weeye awalan torta towba inaad ka toobad keento wixii aada ku dhacday oo dembigan weyn ah towba u baahan yahay inaadanna u noqonayn kana nadaamooto ka qoomamayso kana tagto ficilkaa xun iyo wixii kugu dhiiri gelinaya oo dhan midda labaad waxaa lagaga baahan yahay kafaara gud waana kafaaro adag shahrayni mutataabicayn wey 2 bilood oo isku xariirsan oo aadan marna furihay oo aada soonto haddii kale raqaba haddii kale 60 miskiin quudintood waxaa kale oo saddexeeya maalintaasna waad soo celinaysaa iyadana oo in la qallayooway intaas ayaan ka garanayaa su-aashaada ilaahay subxaana wa tacaala annagii adigaba hanaga xifdiyo iyo muslimiintaba fawaaxishta iyo macaasidaba wallahu aclam jazaahu llahu khayr aljaza sheekh maxamed idriis su-aashan saa-ilka wuxuu leeyahay waxaan rabaa in la ii fasiro riyadan waxaan ku riyooday dad geedi ah oo gaadiid wadanin kadib waxaan soo gaaray faraq la gudbayo
inta aan gudbin waxaana soo gaaray nin cas oo dhexdhexaad ah dadka ayaan su-aalay waxay ii sheegeen inuu yahay nebigii. alxamdulilah. horta riyadan anu ma fasiri karo. sidaba riyooyinka fasirkoodu waa dhanni iyo takhmiin waxay ila tahay wey. oo hadda aayad baa riyadan saa u fasirtay laydin dhihi maayo. xadiid nebi baa saa u fasirayna idin dhihi maayo. ra'yi iyo tala maxay kula yar muuqataa sheekada kuula eg tahayna waa inoo dhextaal. idinkii anigaba waa inoo dhextaal. hal midun maan rabaa inaan idhaahdo. ninkaa uu arkay ma jasmin karaa nabiga inuu yahay sal ly slam waayo tilmaan kamuuna bixinin. nin hadduu ku yidhahda nabigaan ku riyooday tilmaan baa la yidhahdaa. hadduu tilmaantii nebi maxamed waafaqo sal ly slam riyada wuxuu arkay waa isaga. hadday tilmaantii waafaqi weydana hadde isagii maha wax kaloo arkay. shaytaanka laa yatamathalu bi nabigu markuu leh sal slam isuma soo ekeysiiye wey. sidaydi isuma ekeysiin karo. laakiin hadduu nin madow oo gaaban oo jareer la arko oo yidhahda nabigii waa ku riyootay waa nabigii lagu yidhahda sheekadaa been wey. waa inay tilmaanta qofkaad aragtay tilmaantii nebi maxamed waafaqdo sala allahu alay ali wasalam markaasaa la dhihi karaa riyada qofkaad aragtay waa nabigii. maadaama uusan faahfaahin ka bixinin ma dhihi karo waa nabigii waa yahay iyo isagii ma aha midna ma dhihi kara. kolba ereyga uu yihi nin cas casiinka hadduu uga jeedo innaga casiinka soomaalida naqaana nebi maxamed ma aha. nebi maxamed nin carabo cad buu ahaa hadduu uga jeedo wey. hadduu casiinka un midabkii carabtiiyo inuu lahaa uga jeedana isdiidi mayse tilmaamihiisii inay labadaa tilmaamood ka mid noqdaan. laakiin labadaa keliya kuma eka. boqolaal iyo malaayiin baa cas oo dhexdhexaada. laakiin tilmaamo intaa ka badan buu nabig alay salaam. wejigiisu tilmaam buu lahaa. timihiisu tilmaam bay lahaayeen. garkiisu tilmaam buu lahaa. waxaa tilmaan lahaa laabtiisu tilmaam bay lahayd. gacmihiisi iyo garbihiisu tilmaam bay lahaayeen. qofku tilmaam fiican waa inuu keenaa oo qofkii lagu garan karo lagu qiyaasi karo. riyooyinka midda kale de haddii la gartiyo haddaan la garan axkaam kuma dhisanto. waxaan waa xalaal iyo xaaraan iyo wuu fiicnaayo ma fiicnayn mujarad dhanni iyo takhmiin wey. wallahu aclam. jazaahu allahu khayra aljazaa. culimadana abaalkooda alla gudi kara. ilaahay subxaana watacaala wanaag badan ha uga abaalmariyo. waqtigii ay soo bixiyeen iyo imaatinkii waqtiga oo iga dhacay aawadeed iyo su-aashu igu soo noqnoqotay iyo sheekh maxamed adar oo saacadda ii fiirinaya insha allahu tacaala su-aashan ayaan ku gabagabaynayaa. horeyna waa looga jawaabay laakiin way igu soo noqnoqotay. waxaa la leeyahay sheekh laba qofood ayaa isku guursaday mahar aan reerkii weligii ogeyn. labadii muddo 4 sano ayadoon laga warqabin ayaa la kala safray. laba dal ayaa lagu kala nool yahay. gabadhii meel bay ku nooshahay wiilkiina meel buu ku nool yahay. maxaa uu xal ah labadaas? alxamdulilah. sheekhu wuxuu yidhi wixii qoys oo dhan horta maxaad igu soo riixaysaa. alxamdulilah ikhwaani marar badan baa laydinku celceliyey waana la idiin sheegay. sibay laakiin idinka soo boodboodaysaa. ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatilun fanikaaxuhaa baatilun. nabi maxamed baa saa yidhi sal ly slam. haween kastoo weligeeda idan la-aan iyo ogaan la-aantii guursataa guurkeeda waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jira. nabigaa yidhi sal ly slam. labada qof haddii uu xiriir dhex marayna allah u dambi dhaafo. haddii ilmo yimidna oo iyagu markaa moodayeen in wax u saxan yahayna ilmaha aabbihii dhalay baa loogu abtirin oo xaaraan ma aha. iyaga sow ma aha waxba isuma hayo. hadday israbaan hadda ha ismehersadaan. intii weligii la xiriiraan meherkii ha cusboonaysiiyaan oo meher cusub ha ismeheriyaan. aniga intaasaan ka dhihi karaa. sheekhaan ku wareejiya hadda wax ku daray waxma dhamaystiri. haye jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum. haddana mu'tamarka insha allahu tacaala waxaan dib ugu celinayaa sheekh maxamed adar. jazaahu allahu khayran. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد waxyar kadib insha allahu tacaala mikrofoonka waxaan ku wareejin doonaa culummada iyagana isu sii dhiidhiibi doonaa. sheekh maxamed idriis baan ka bilaabi doonaa. sheekh maxamed shibli baan ku xijin doonaa. kadibna sheekh cabdullaahi ayuu ku dambeyn doonaa. inta marka aan la gaadhin waxaan jeclahay inaan halka ka iclaamiyo mu'tamarkeennii islaamiga ahaa. dabcan culummadana waxay inoo soo jeedin doonaan runtii dardaaran
iyo kelimaad aad muhiim u ah kelimo sidoo kale aad muhiim oo u qiimo badan iyana waxaa inoogu soo khatimi doona iyo duco weliba maadaama culummada lafteedu wax badan ay noo ducaysay intii mu'tamarku uu socday oo aamiin aan lahayn aan isu lahayn annagu haddana insha allahu tacaala galabta iyagaan u ducayn doonaa oo aamiin ayaan ugu kaalmayn doonaa annaguna insha allahu tacaala kelimadaas iyo khitaamka mu'tamarka si nihaa'iya waxaa usoo gebagabayn doonaa sheekhana sheekh cabdullaahi cabdi ibraahim inta ka horeysa waxaan jeclahay waa maalintii ugu dambeysay mu'tamarkeenna halkan inaan idhaahdo ta kale waxaan si weyn runtii ugu mahad celinaynaa ilaahigii subxaanahu casa wajalla qadaray ee noogu bilaabay si nabadana inoogu dhameeyey mu'tamarkeenna muddada 5 maalmood ahayd sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaalaha ka soo qayb galay ee waqtigooda u horay qiimaha badan meelaha kala fog ee kala duwan isaga yimid ee gobolka Western Cape ka kooban qaybaha uu ka kooban yahay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaalihii ka qayb qaatay barnaamijka dhamaystirka maraakista islaamiga ah ee wadankan sidoo kale waxaan rabaa inaan tilmaamo waa mu'tamarkii koobaad baan wax badan ku soo celcelinay darsi kasta marka la bilaabayo dabcan kow waa tiradu meeshay ka bilaabato taa waxaa laga fahmi karaa mu'tamarkii koobaad mar hadduu yahay mu'tamarada noocani South Africa ay kii koobaad uu noqday inuu socon doono insha allahu tacaala sanad walbana la qaban doono mu'tamarka iyadoo aan ka cudur daaranayno maadaama shaqadu bilow ay nagu ahayd oo mu'tamarkii ugu horreeyay aan qabanno uu ahaa wixii khalad farsamo ah ee naga dhacay ama dhinaca martigelinta iyo soo dhaweynta dadka ha ahaato ama akhtaa kale ha ahaato ama dhinaca farsamada iyo ku haboonaanshaha meesha lagu qabtay mu'tamarka wixii dhaliilaheed kala kulantaan waxaa noogu cudur daaraysaan in markii koobaad oon qabanno uu ahaa marba marka ka dambaysana insha allahu tacaala haddii ilaahay cimri noo siiyo in aan wax badan ka bedeli doono oon habayn doono sii casriyeyn doono culumadana waxaan rajaynaynaa iyagoo inta ka badan weliba inaan keeni doono hadduu alle idmo mu'tamarkaasna uu inoo sii socon doono iyadoo hadafka laga leeyahayna horey loo caddeeyey mu'tamarku markuu furmayey asbaabta mu'tamarada loo qabtana waa la caddeeyey maalintii in culamada muslimiinta ee meelaha kala duwan jira iyo dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed ee ku kala firdhay dunida daafaheeda fursad ay isku wareystaan ay isu helaan isla markaana ay kaga baahi baxaan wixii jahli diinta islaamka kaga jira iyo masaa'ilka ay qabaan ay weydiiyaan iyo wacyiga ummadda kor in loo qaado iyo in shacairta islaamka la nooleeyo oo ilaahay subxaanahu caza wajalla miisaanka xasanaadka aan ixtisaabano oo niyeysano inuu inoogu daray inta aan fadhino waxaan runtii si weyn ugu mahad celinayaa dadkii ka qayb qaatay dhammaan dadkii ka qayb qaatay najixinta hawsha mu'tamarka min bilow ilaa maanta oo aan marayno gabagabo guddiga dacwada ee qabanqaabada weyn ku bixiyey ee diyaariyey dhulkan waxaan u mahad celinaynaa qaybihiisa kuuradka iyo amniga waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dhalinyaradii isku xilqaamay rag iyo dumarba in ay hawshani ay najaxdo insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu caza wajalla acmaasha aan qabanay waxaan rajaynaynaa dhammaanta iyo miisaanka xasanaadka inuu inoogu daro mu'tamarka najaaxiisa waxaa runtii number 1 ka ahaa culummada safarka dheer usoo gashay liajli dacwa ee halkan noogu timid iyagana si weyn baan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waxaan ku wareejinayaa si uu kelimo dardaarana inoogu bilaabo sheekh maxamed idriis axmed kadibna wuxuu usii gudbin doonaa sheekh maxamed shible kadibna waxaa lagu soo khatimi doonaa sheekheena sheekh cabdullaahi cabdi ibraahim الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى أيام هذه السكالة إن والله سبحانه وتعالى نوك الميي لما يسترك مؤتمر كاني أين نجوغنه قبديسي وقايبتي كيب تاون qaybtii Johannesburgna ayaama ka hor ay iyana soo dhamaatay qaybtii gobolka barigana ay wali dhiman tahay Eastern Cape waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadinaynaa nicmada ballaaran ee Rabbi subxaanahu wa ta'ala uu nasiiyay nicmada kulanka nicmada wadajirka nicmada islaamka iyo iimaanka iyo quraanka iyo khayraadka إلهي سبحانه وتعالى أيان قوم هادنين وحنا إلهي كبر ينين نوزياديو إلهنا سبحانه وتعالى إخلاصك في القول والعمل وإلهي نغير زاقه
naftayda iyo walaalahay waxaan u dardaarmayaa dardaarankii ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. naftayda iyo walaalahay rag iyo dumarba meel kastoo aynu joogno cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taqwadiisa. waxaan isu dardaarmaynaa ikhlaaska fi lqowli waalcamal, inaan ku dadaalno ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan camalkeenna u khaalis yeelno. wax kastoo aan samaynayno, hadal kastoo aan ku hadlayno, tallaabo kastoo aynu qaadayno inay noqoto khaalisatan liwajhi illah. maxaa yeelay middaas weeye midda ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna faray, wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa facbud illaha mukhlisan lahu ddiin. ilaahayna subxaanahu wa tacaala addoommadiisa mukhlisiinta ah ayuu jecel yahay rabbi subxaanahu wa tacaala, wuuna badbaadiyaa, camalkoodana ilaahay wuu toosiyaa. wax yaroo dadaalo ay bixiyeenna wax weyn baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakeeya ka soo saaraa. marka waxaan walaalahay rag iyo dumarba kula dardaarmaya inaynu ku dadaalno ikhlaaska camalkeenna, aqwaasheenna, waxaynu ku hadlayno, tasarufaadka aynu samaynayno iyo waxaynu qabanayno oo dhan. nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulih waman kanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh. halkaa waxaan u jeednaa niyadii inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam laba u qeybiyey. qof niyadiisu ay tahay adduunyo iyo wixii la xiriira adduunyadaas, wixii uu dadaal ku bixiyo waa la siinayaa, laga baksin maayo. iyo qof niyadiisu ay tahay alle subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa oo u hijrooday ilaahay dartiis, rasuulkiisii usoo hijrooday, camalkiisu ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa ku doonaya, wax kaga doonaya. kaas weeyana kan aakhiro iyo adduunkaba liibaanta ay u sugnaatay oo alle subxaanahu wa tacaala agtiisa wax kaga helaya. waa inay ibtidaa'an camalkiisu uu yahay, niyadiisu ay tahay ila allahi wa rasuul. saas darteed buu ku celiyay nebigu calayhi salatu wasalaam faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi. niyadiisu hadday saas ahayd sidaasaa la siin, fahijratuhu ila allahi wa rasuul, taasuu ajarkeeda helaya. haddii laakiin adduunye ay ahayd ama magac ay ahayd ama kelimad ay ahayd ama muuqaal ay ahayd ama mansib ku hel ay ahayd, waana waxa dad badan adduunka ku hoda eh. ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga koryeelo. walaalayaal inaynu ku dadaalno ikhlaaska fi lqowli waalcamal. camalkii aan ikhlaas lahayn si kasta oo loo buunbuuniyo iyo si kasta oo laysugu dayo ama wax loogu bixiyo wax qiimaha ma yeesho. ilaahayna agtiisa wax qiimaa kama laha, meelna ma gaaro. wixii wax noqdaana waa wixii ikhlaas loola jeedo. marka taas waa dardaarankayga koowaad. dardaaranka labaad waxa weeye wadajirka iyo ijtimaaca inaynu ilaalino. usuusha diinteenna khaasatan ahlu sunnaha waxaa ka mid ah qofku inuu had iyo jeer hamigiisu u yahay wadajirka muslimiinta iyo midnimadooda iyo maslaxada diintooda iyo adduunyadooda sida ay ku qumi karto. wax allaale iyo wixii u keeni kara tafaraaruq iyo fasaad iyo ikhtilaaf iyo fitno u keeni kara oo dhan u ka fogaadaa qofka muslimka, u ka fogaadaa. marka walaalayaal inaynu ilaalino had iyo jeer dadka muslimiinta ah maslaxadooda iyo midnimadooda, oo aynaan u ordin, oo aynaan ka shaqayn, oo aynaan taageerin, oo aynaan waxmoodin furqo iyo khilaaf iyo kala tag inay maslaxo ku jirto, oo aynaan isu muuqan. arrinkaas waa arrin muhiima, ummaduhuna wax ku gaaraan adduun iyo aakhiraba. taasaynu wax ku gaari karnaa. ilaahayna saasuu ina amray, wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu. waxaynu ku kulmaynaa ay noqdaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigiisa calayhi salaatu wassalaam iyo sida dadkii wanaagsanaa laga soo gaaray. saddexdaa arrimood iskuma khilaafsan.
qof muslimaha wanaagsanay saddexdaa arrimood midna ma diidi karo kitaabkii ilaahay sunnadii nebigiisa calayhi salaatu wassalaam iyo jidkii ay mareen asxaabtiisii iyo culimadii iyo dadkii wanaagsanaa qarniyadii mufadalka ah waddaday mareen ee ilaahay subxaana wa tacaala u ammaanay ee raallida ka noqday intaas aynu marno intaa haddaynu kor isla waafaqno maxaa ka sugan maxaan ka sugnayn waa masale cilmiya gadaal baynu isla baari karna haddaad tiraahdo waxa kanu kama sugna asxaabtii kaale aan isla baarnay waxa kanu sunnadii nebiga calayhi salatu wasalaam inay tahay kama sugna way isku qaban karnaa kaale aan isla baarnay si walaaltinimo ah oo ay walaaltinimo ku jirto laakiin inaynu tafaruq iyo khilaaf min gayri wajhin aynu u samayno arrin saxa maaha waa inaynu ku walaalownaa diinta ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabka ilaahi sunnada nebigiisa calayhi salaatu wassalaam iyo dariiqii salafkii saalixa ahaa ee ahaa saxaabadii iyo taabiciintoodii iyo taabiciin iyo quruntii mufadalka ahayd waddaday mareenay ku ijmaaceen saddexdaa arrin baynu ku badbaadi karnaa ilaahay idankiis marka inaynu iska jirno wax kasta oo khilaafsan qofkii wax kala wada ha keeno markaa ha laysla fiiriyo kitaabkaa lagu fiirin sunnada nebiga calay slam baa loo celin hadday sunno saxiixa tahay madaxaynu saare hadday sugnaan weydana gidaarkeenu ka tuuri oo bannaankaa loo tuuri adigana maslaxa kuma anna maslaxa iima aha warku intaas buu ku fudud yahay oo dadka muslimiinta dhexdooda kuma timaado marka farqu haddii ay isla ogol yihiin arrimahaas arrinka saddexaad oo aan maaragtay walaalahay u dardaarmaya iyo naftaydaba waxaa weeye adduunka waxbaa ka dhacaya innaga soomaali waxbaa inagu dhacaya gaar ahaan ummadeennana waxbaa ku dhacaya nawaasil baa jirta ummadda soo wajahaysa ummadda waxbaa soo qaabilaya mashaakil waaweyn mushkilooyin waaweyn waxaa soo qaabilaya wax laga boqo wax lagu farxo wax laga murugoodo qadaayaa waaweyn ayaa ummadda soo wajahay innagana ina haysta arrimahaas waxay u baahan tahay sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan uu inoo wajahay kitaabkiisa inoogu sheegay inaynu u wajahno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qur-aanka kariimka ah isagoo inoo sugaya alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira qur-aanka miyaanay tadabbur yahayn miyaanay ku fikeri yahayn miyaanay maskaxdooda ku ballaarinayn miyaanay u fiirsanayn si xeel dheer aayaadkiisa iyo waxaa ku jira xikmad iyo cilmi iyo nuur iyo iftiin ay xambaarsan tahay iyo caafimaad mushkilooyinkooda naf iyo maal miyayan fiirinayn walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira cid kale hadday ahaan lahayd cidda keentay qur-aankan waxaa laga heli lahaa iska horimaad laakiin kitaabka ilahi iska horimaad ma leh hadday iska horimaad u malayo qofku isaga cilmi darradiisa iyo aqoon darradiisa ku timi aayadda ku xigta wuxuu ilaahay leeyahay xiriir bayna la leedahay aayaddan hore wuxuu leeyahay waidaa jaaءahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bihi walow raduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum wareerkaba waxaa keenaya inaan mas'alada loo celinayn dadkii fahamka u lahaa dadku ilaahay yidhi ha loo celiyo mashaakil markay timaado dhibaato markay idinla soo deristo mushkilo u baahan in go-aan laga gaaro ama mowqif laga qaato markay la soo deristo uma celinayaan ilaahay iyo rasuulkiisa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii amarka u hayay dadkii cilmiga u lahaa ee ahlu cilmiga ahaa uma celinayaan iyagaa la boodayahoo qof walbaa waxbuu iskaga dhaqaaq ama go-aan buu iska gaari ama koox walbaa waxbay iskaga dhaqaaq saasuna sidii saxayd maaha saasuna sidii saxda ahayd maaha adaacuuhu walow raduuhu hadday u celin lahaayeen ila arasuuli noloshiisii iyo hadda baaqi sunnadiisii wa ilaa uli lamri minhum uli lamriguna kitaabka ilaahay meesha ku yimaa culimada iyo umarada labada amarka haya lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhu dadkaasunbaa fahmi kara dadka kala soo bixi kara mas'aladan wixii laga gaari lahaye cilmigeeda iyo fahamkeeda iyo mowqifkeeda daqiiqa ah istinbaadkuna waa shay xukunkiisa si adag oo xeel dheer loola soo baxayo wey maaha shay dusha iska saaran oo la iska fahmi karo
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا تاسنا ودقنيه ولا لي هدان ليلين سداس إن شيطانكو إن بدن ودفصدو أيا دعيسا مركا وحا نفتيدي ولا لهي كلا تلين أياه أمركاس أي آيادو شاكتي ودونت اللقو بدبادو سفينة النجاة أولو الأمر أولو علي أمورتا وسفينة النجاة سنة النبي عليه السلام لو عليو إيو أولو الأمر مركا جوغا لو عليو وسفينة النجاة ودونت اللقو بدبادو إدي كهرتانا بدبادو داسي كهريسا مركا ولا ليا إنا نفتيدا إيو ولا لهيبا في تنتبضانو أدونك جرتا adduunkan la iskala jiidanayo mashaakilku uu ka buuxo waa inaynu doonta badbaadada qabsanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala na badbaadiyo ugu dambayntii waxaan naftayda iyo walaalahay u dardaarmayaa dal qurba ah baad joogtaan waad u soo shaqo doonateen waadna ku badbaadeen in badan oo ka mid ah waadna ka shaqaysateen wax badanna hadda waad ku haysataan waadna ku nooshihiin isagana nidaamkiisa iyo waxaad ku soo gasheen ilaaliya oo tixgeliya oo martida laydin geliyey iyo ballamaha laydin la galay oofiya idinkuna si nidaamsan uga shaqaysta oo edebsan oo islaamkiinni iyo diintiinni ka tarjumaysa oo isnidaamiya oo diintiinni saad ku xafidan lahaydeen maslaxadeeda ka shaqeeya saad maraakiis u yeelan lahaydeen oo maraakistan hadda aan dhisanayno oo kaleeto waa waxyaalaha ugu waaweyn oo diintiinni ubadkiinni dumarkiinni idinka aad maaragtay shakhsiyadiinni ku xafidanaysaan inaad maaragtay hiil iyo hooba siisaan madaaristan caruurtii tarbiyeynaysa saaka xaflad baa jirtay runtii rag dad badani ma joogin laakiin dadka qaarkiis baa kasoo qayb galay halkaasna waan ka sheegay madaaristan oo kale oo haddana meeshan ay tahay inuu tabarucaadka u ururinay inay madarasadaas qayb ay ka qaadato saaka ninkii joogay baa joogay ninkii kalena waa inuu cajaladaha ka fiirsadaa ardayda yacni yaryar gabdho iyo wiilal ah oo qur-aankii iyo luqadii carabiga ahi iyo diinta usuusheedii ku tarbiyoobaya maanta walaalayaal wax la heli karo maaha waa waxaad u qiimo weyn caruurteenni iyagoo intaasoo kilomitir oo kumayaal kilomitir ka soo baxay inay maanta diintoodii halkaa ku haystaan sababtuna bacdallaahi fadliga ilaahay kadib waxay ku suurto galaysaa dadka culimada ah iyo maraakistan iyo ducaadda khayrkan hogaaminaya marka walaalayaal inaynu madaarista iyo khayraadkaas halkaa kasii wadno oo intan ka badan baa laynooga baahan yahay iskuulle inay yeelataan baa laydinka baahan yahay islaami ah isu kaalmaysataan hal baan idin weydiinaya waalidiin badan baa meeshaan joogta iskuul in la dhisto oo iskuul ay yeelataan laba arrin bay u baahan tahay keliya bes waa laba mushkil waana samayn kartaa majliska aad joogtaan baa iskuulka lagu dhisi karaa lagu samayn karaa laba arrin keliya u baahan tahay arrinkii hadda aan ka dardaarmayay oo ahaa midnimada iyo wadajirka inaad wax wada qabsataan hadday teendhadaanu hadda ina koobtayna danteennu waa mid waxaa halkan isugu keenkeenay waa qadiyo aynu ka midaysannahay waa dan baa isugu keenkeentay dan diin iyo adduunyo labadaba marka haddaan ka soo qaadno halkan 500 oo ka mid ah waalidiinta ama 200 oo ka mid ah waalidiinta hadday iyagu hadda isugu tagaan war madaraso aan samaysano madaraso iskuul islaami caruurteen ay diintoodii ku xafidanayaan inoogu xafidnaanayaan aan samaysano majliskan aan ku samayn karnaa hadda mar rabo mashruucaas inaan bilaabo laakiin tusaalihiisaan idin siinaya 100 aabe iyo hooyo oo isugu taga midkiiba 10,000 kaliya oo shilin ha bixiyo ha ku musaahamayo midkiiba 10,000 ha ku musaahamayo sanadkii waa imisa 1 milyan oo shilin soo ya 1 milyan 1 milyan oo shilin 1 milyan oo shilin sanawiyan haddaynu ku bixino iskoolka waa kicinaynaa waxaynu macallimiintiina way noo joogaan dhalinyaradii jaamacadaha ka soo baxda way noo joogaan haddayna innaga inoo joogina muslimiintii kale ay u joogaan dugsigiina sidaas oo kaleeto inaynu u samayno lacagteenna inaynu wax kaga bixino qiila waqaala iyo waa la yiri iyo waa la sheegay iyo
reer hebel bay ahayd sidaas walaalayaal adduunka maanta kama shaqayso waxaa loo baahan yahay maskaxdeedna inaynu ballaarino isku dan baynu nahay isku diin baynu nahay ama gobol hebel ka imow ama meel kale ka imow ama in qansax ahaw ama in qurac ahaw caaw Cape Town baa wada joogtaan caruurtaadu haddaanay iskuul lahayn markas lahayn madaraso lahayn dan cid uga shaqaysa lahayn gangs bay noqonayaan iyo dad daroogo iyo banaanada ku baxa walaciyaadu billah marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa danaheen iyo seen u noolaan lahayn oo diinteena ugu xun inuu u midowna kala shaqeyn qiila waqaala iyo arrimaha yar ee maarata la isku dilayo la isku haystana waa la dhaafay adduunku baahru ka tegay midaasna maskaxdiina ka ballaariya ayaan idinkula dardaarmi lahaa wixii waddankeennii soo dumiyeyna hadday wax tarayso dalkeennii bay dhisi lahayd qabyaalad iyo qurunkeed iyo isku ximinteed iyo isku dilideed hadday walaalayaal wax tarto 20 sano ayay dalkii aynu uga soo qaxnay sababteed baynu u soo qaxnay halkaan ayna dhigtay marka bani aadamkuna waa qofka ku cibro qaata wixii dhacay intaas baan anagu nafteedii walaalahay kula dardaarmaya ninkii caqli leh bay dardaaran u tahay doqoni waa moog oo ma fahmayso ilaahi subxaanahu wa tacaala nagu anfaco anaga iyo idinkaba khayrkana allahna waafajiyo diinteenana kuwa ku sugan allah naga dhigo sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbi بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد waxaan filayaa wixii dardaaranaa sheekh maxamed baa inoo dhameeyey wax badan aan ku dari maayo waqtiguna waa iska sii gabagabo 3 xeray baan ku dari marka koowaad meesha shaqaad u timaadeene xalaal raadiyo xaaraad iska daaya intaa su-aalaha halkan iyo meel kastaba waxaa kusoo noqnoqonaya xaaraan laga shaqeeya musuq maasuq iyo waxaan macno lahayn waa nin bele soo qaxisoo dunuubaan gallay guryaheena inaga soo qaxisay markaan soo qaxnayna dembigii haddaan qoorta kula sii jirnaayay imtixaanku uun sii badan walaalayaal waad shaqaysanaysaan oo wada xamaalataan oo khayr allah idin siiye inaad xalaal ka shaqaysataanna ku dara xaaraantana iska daysaan taa intaasaan idinka dhihi lahaa mid labaadna waxaan idinka dhihi lahaa waddanka aad timaadeen waa laydinka soo horreeyey jaaliyad muslim haddaad tihiinna jaaliyada muslim oo hortiin khibrad iyo tijaabo leh baa jira ka faa'iidaysta oo ku xirnaada oo waddankan keligiin ha istaagin oo duur ha geline idinkoo maraakistiin la leh muslimiinta kale ee qaarna sii deganaayeen qaarna hortiin usoo qaxeen ay yimaadeen meelahay ku jabeen si aydan ugu jabin xiriir wanaagsanna la yeesha khibraddoodiina ka faa'iidaysta waxay idinku dhamaanna u baxsada weheshada oo garab ka dhigta kii aad ka timaadeen hadda waxa la hubo kanaad joogtaan wey meeshaad habeen baridaa ku huran ilmihiinna waa South African hadday berri waaweynaadaanna waddan kale ma leh waddankan ilmihiinna dadkan aad la degteen nin baa dib u guuri doona laakiin badankiin meel looma socotaan bale inay idin qaxisa maahane ummad meel usoo qaxdayna ma wada noqoto qowmiyadaha jaaliyadeed aragteenna mid waliba waxoogay duruuf nololeed iyo dhaqaale raadisba badankood keenay kadibna waa ku beermeen meesha waa ku tarmeen meel ugama socotaane maraakiis iyo guryana waa gadanaysaan muslimiinta garabsadoo muslimiinta kale ikhwaani iyo akhawaatihi kaashada waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal diinta hala barto intaasoo dabin iyo qallooca haddii la rabo in laga badbaado waxaa ilaahay lagu raaligelin karaa dariiq xaqana lagu ogaan karaa diinta in la barto diinta barta oo naftiinana ku anfaca ilmihiina iyo ubadkiinana ku tarbiyayo oo ku anfaca ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala xaqa inuu nagu wada sugo iimaan saxa nagu nooleeyo iimaan saxna nagu wada dilo jazakum allahu khayran الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إلهي بأما هذا إسكال مركب كوبات سبحانه وتعالى إلهي بأما هذا إسكال إنا سوكو بكرين إنو سورة قليل مؤتمركن إنو سهلي إلا أوصلا في عن إنو قد ما يسترمو waxaa kale oo mahadsan aan ku mahadinaynaa
culimada meesha fog inooga timid ee muxaadaraadka badan inoo qabatay iyo duruusta badan ina siisay. waxaa kale oo mahadsan walaalaha ka khidmeeyey hadday security tahay iyo hadday khidmo kale tahayba mu'tamarkan khidmada ballaaran ka soo qabtay jazaahum allahu khayran. waxaa kale oo mahadsan walaalaha dhammaan soo camiray ee mu'tamarka ka soo qayb qaatay ee ama meel dhow ka yimid ama meel dheer ka yimid, aada bay u mahadsan yihiin. jazaahum allahu khayran jamiican. gabdhaha waxay soo qoreen xagga haweenka waxaa laga soo qoray macnaha inay ka muujinayaan cudurdaar ama ka xun yihiin habeenka dhowd wixii masaajidka ka dhacay. dhammaanteen waan ka xunnahay arrintaas iyada ah. runtiina wax la filayay ma ahayn, laakiin waa wax dhacay. arrintaasu waa ina baraarujisay, waxay inagu baraarujisay inaan leenahay oo inagu dhex jiraan dad ka xun khayrkan socda ka xun, oo innaga inaga mid ah, oo ka xun ijtimaaciya kulankeenna ka xun, khayrkii iyo wanaaggaa socda ka xun, horumarkii iyo mashaariicda ka xun inay dhexdeenna ku jiraan. marka taas iyada ana runtii waa wax la yaab leh lagana xumaado, laakiin ilaahay baa mahad iska leh. lam yanaaluu khayraa, wax khayr ay ka gaadheen arrintaas iyada ah ma laha. waan ognahay dad baa ku talagalay mu'tamarka inuu istaago, inaan collection la samaynin, laakiin wixii oo dhan alxamdulilah ilaahay waa suurageliyey, ayaguna waa ku lugo-een ficlan. ilaahay subxaanahu watacaala mu'tamarkii waa inoo suurageliyey. mu'tamarkiina saan ognahay hadda maanta ugu dambayso haddaan soo khatimaynaa. marka anigu waxaan rabo inaan dhaho waxa weeye duruus badan baan dhegaysanay, muxaadaraad badan baan dhegaysanay, su-aalo badan baan laga jawaaboon dhegaysanay. waxaasoo dhan waxaan rabnaa inay noqdaan waxaan ka faa'iidaysano, inaan cilmi ka faa'iidaysano, cilmigaana ku camal fallo oon qaadanaan rabnaa. cilmiga haddii la inagu aqriyo oon garanno laakiin aynaan ku camal falin, xujuu inagu noqonayaa, khatar buu inagu noqonayaa. marka tamarta iyo maqsuudka kulankan iyo waxaa ugu weyn waxaa weeye cilmigaa inaynu ku camal falno weeye. hal baan idiin sheegayaa, muslimiintii hore eed maqasheen meeshay gaadheen, aada maqasheen inuu ilaahay aakhariya adduunba isugu daray wanaagooda, adduunkana inay qabteen oo iyagu ka talin jireen, oo cizi iyo sharaf iyo midnimo ay lahaayeen, aakharana qaarkood iyagoo adduunka jooga janno loogu bishaareeyey. laba arrimood bay ku gaadheen, meeshaa si fiican u dhagaysta. laba arrimood bay ku gaadheen oo adduun iyo aakharaba kuu kulminaysa haddaad labada arrimood samayso. waa alyaqiinu waalcasiima, yaqiin iyo cilmi iyo casiimiya go-aan adag inaad yeelato, inaad cilmigaa fuliso. haddaad doonto waxaad tidhaahdaa alcilmu waalcamal wey. waa cilmi oo diintaada aada fahamto, ujeeddada aada fahamto, jidkii xaqa ahaa aada garato, iyo inaad ku camal fasho weeye. maxaa kugu waajibay aada garato aada ku camal fasho, maxaa kaa xaaraama aada garato oad ku camal fasho weeye. arrintaa iyada ah markii la fiiriyo bini aadamku waa 4 qaybood. 4taa qaybood ee ayaga ah 3 waa halaagsamayaan, hal qolana way badbaadaysaa. qola cilmiga inay gartaan waxanu waa xaaraam, waxanu waa xalaal, waxanu waa waajib, waxanu waa kadaa, way garanayaan oo cilmigeedii way leeyihiin, laakiin camalfalkii wuu ka maqan yahay, kuma camalfalayaan. salaadu waa waajib ma leh, zakadu waa waajib, waa la bakhaylayaa. xajku waa waajib, wuu ku waajibay ma aadayo. wuxuu og yahay xantu waa xaaraan, kama tegayo. caryaa xanta ka taga, caryaa xanta ka taga. xantu waa xaaraan, kama tegayo. xasadku waa xaaraan, kama tegayo. beentu waa xaaraan, wuu sheegayaa. maalka ribadu waa xaaraan, kama tegayo. qishku waa xaaraan, kama tegayo. mucaamaladani waa xaaraan, ma daynayo. wixii wuu garanayaa, laakiin awood uma laha inuu waxaa xun ee uu garanaya inuu ka taga, awood uma laha. waxaa fiican iyo wanaagga inuu sameeya awood uma laha. arrintaa iyada ah marka waa arrin dhibaato badan la weeye. maantana waxaan ka baqano innaga inoogu daran dhinaca in la inaga haysta weeye. maxaa yeelay aqoontu maanta inaguma yara. in badan baan cilmi aan garanaynaa oo aynu culimo ku dhex jiray oo la ina wacdinahay oon wax akhriyaynay,
laakiin camalfalkeennu boqolkiiba meeqaad umalaynaysan inuu noqonayo inaan dabaqno oo aan ka run sheegno boqolkiiba meeqaad umalaynaysaan bal nin walba fiiri boqolkiiba 10 miyaad haysaa boqolkiiba 20 miyaad haysaa boqolkiiba 30 miyaad haysaa boqolkiiba 50 miyaad haysaa inteed haysaa bal fiiri qolada labaad waxa weeye qolo camal bay iska sameeyaan ilaahay bay iska caabudaan laakiin cilmi ma leh waa iska jaahiliin ama hawadoodaasiiba ilaahay ku caabudaan subxaanahu wa tacaala kuwaasna waa halaagsamayaan iyaguna rajo ma laha iyaga naftoodu labadaa qolo waa kuwa lagu jamcinayo hayr almaqduubi calayhim waladaalliin oo had iyo goor ilaahay aan ka magangelayno kuwa loo cadhooday waa yahuud iyo kuwii jidkoodii maray xumaantiiyo meelihii lagu halaagsamayay waa ujeedaa laakiin kama leexan karo naftiiyo hawadu ka raacayaa kama leexan karo wuu ujeedaa in lagu halaagsamaya kama leexan karo dhibaato aada u badan wey iyo qolada iska lunsan ee cilmigii faraha ka qaaday laakiin hawadooda iyo say jeclaysteen iyo si abka soo gaadh iyo waxaasaa diin u ah qaabkaasay mataqaana cibaado ka dhigtaan kuwaasna waa kuwa labaad oo halaagsamay waa kiristanka iyo kuwa jidkooda maray dariiqooda wey qolada saddexaad ee halaagsantay waxaa weeye cilmina male camalna male waa iska cawaantaas waa iska nool yihiin halka qole ee marka badbaadaysa waxaa weeye waa kuwa ilaahay isugu daray aqoontii cilmiga maaha inaad caalim noqoto un lagama wado laakiin in badan baad garan oo xun iyo in badan oo fiican xumaha iyo samaha waad kala garanaysaa muslim baad tahay in badan oo xumaha iyo samaad kala sooci kartaa inaad intaa ku dhaqantaa muhiima marka hadduu ilaahay isugu kaa daro aqoontii noocaa ahayd iyo ku camalfal hadduu ilaahay isugu kaa daro markaasaad waxaa tahay ruuxa rajaynaya badbaado inuu ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala allah qur-aanka wuxuu ku ammaanay addoommadiisa kuwa ka mid a ambiyadiisa kuwa ka mid a wale wadkur cibaadanaa ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba ulil aydiya waalabsaar waxaad sheegtaad xustaa addoommahanaga nebi ibraahim iyo wiilkiisi nebi isxaaq iyo wiilkuu sii dhalay oo ahaa nebi yacquub ulil aydiya waalabsaar ee quwada iyo awoodda u lahaa cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala absaarna waxaa weeye cilmiga iyo aqoonta iyo basiirada lahaa weeye marka ilaahay wuxuu isugu daray quwat lcilmi wa quwat lcamal alquwa alcilmiya walquwa alcamaliya quwadii iyo awooddii camalfa cilmiga ilaahay waa siiyey quwadii iyo awooddii cilmiga inay ku camalfalaan oo fuliyaan alla waa siiyey subxaanahu wa tacaala sow ma aha kuwaasoo karaa marka la rabaa jidkoodii in la higsado walaalayaal aqoon badan ilaahay waa ina siiyey laakiin aynu isku dayno inaan dabaqno aynu isku dayno inaynu mataqaanaa waxyaabo badan aynu maaragtay nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxa waxa muslimka waxa markii la weydiiyey kee ugu khayr badan muslimka wuxuu yidhi sida sunanu tirmidi uma taqaanaa kusoo aroortay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man daala cumruhu waxasuna camaluhu muslimiinta waxa ugu khayr badan waa ruuxa cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna fiicnaada weeye kee ugu shar badan waxa ugu shar badan ruuxa cimrigiisuna uu dheeraado camalkiisuna uu xumaado weeye maxaa ilahay ruuxa muslimka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna fiican yahay intaa darajo ziyaadsanayaa allah buu usii dhowaanayaa wuu sii fiicnaanayaa laakiin ruuxa cimrigiisu dheer yahay camalkiisuna xun yahay intaa ilaahay buu kasii fogaanayaa subxaanahu wa tacaala jannaduu kasii fogaanayaa naartuu kusii fogaanaya walciyaadu billah marka waxaynu u baahannahay waxaa weeye isu soo duuduube aynu isku dayna inaynu fulino cilmigaas badan ee la inagu aqriyey waxaynu horay u naqaanay iyo waxayna aqooninba aynu isku dayna inaynu fulino jazaakum allahu khayran waxaan rabaa horta sheekh maxamuud wuxuu yidhi culimmadu iyagaa inoo ducaynahaye bal inaguna aynu u ducayno yidhi marka in sha allahu tacaala culimmada waa u ducaynaynaa jazaahum allahu khayran culimmada ilaahay waxaan uga baryahayaa subxaanahu wa tacaala inuu cimri dheer ku arsaaqa iyo camal saalixa ilaahay waxaan uga baryay subxaanahu wa tacaala tawfiiq iyo sadaad iyo toosnaan inuu ku arsaaqoo siiyo ilaahay waxaan uga baryay subxaanahu wa tacaala fahmi iyo fiqhi fidiin inuu ilaahay siiyo ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu wa tacaala culimmadaa inuu ummadda ku anfaco ummadda islaamka inuu ku anfaco cilmigooda iyo mataqaanaa iyo caqligooda iyo juhuudda ay wadaan inuu ilaahay ku anfaco subxaanahu wa tacaala wixii xasad iyo cadow ku ah inuu ilaahay ka qabto oo khayr laawayaale inuu ilaahay ka qabto ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen waxaan ilaahay aan inoo weydiinayaa inuu dembigeenna dhaafo
sida meeshan iyo khayrkan allah uu noogu kulmiyo ilaahay waxaan ka baryay inuu jannatulfirdowsa inagu kulmiyo dhammaanteen oo jannatulfirdowsa dhexdeeda aynu isku warsanno maanta waxaynu sameynay maalmaha waxaynu sameynay maalinta aynu iska waraysanno ilaan ahlu jannuhu waxay adduunka soo mareen bay isweydiin doonaan oo ku sheekaysan doonaan inaynu ku sheekaysanno insha allahu tacala fi jannati alfirdows wajazaakum allahu khayran meeshan ducooyin baa la dalbayaa nin meeshan wuxuu leeyahay walaalkay baa wuxuu ku xidhan yahay Zambia oo muddo ku xidhnaa marka ilaahay mataqaanaa hala ii baryo inuu maaragtay ilaahay oo maaragtay uu sijniga xabsiga uu ka sii daayo walaasheen waa xanuunsan tahay ayaduna waxa ay maaragtay baryaysaa in ilaahay loo baryo culimada musaafiriin oo ducadoodu dacwatul musaafiri waa mustajaaba insha Allah iyagaan ku codsan dadka inay u duceeyaan alxamdulilah sala allahu calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلهي وحن كبري إنا قفك حنوصين إلهي عافمات سيو كوا حبسي إذا كجرين إلهي حبسي كصوصارة كوا جرين إنه إلهي عافمات سيو كوا ذرية هايسان إنه إلهي ذرية صالحة وغداقه كوا ذرية لهنا ذرية إنه إلهي بركيه وإصلاحيه ذرية إنه ذرية المسلمين وإنه إلهي إصلاحيه qof walba muraadkiisa khayrka ah uu jecel yahay dadka halkaa jooga oo khayrka soo doontay ilaahay muraadkiisa khayrka ah ilaahay ha siiyo qof walba ilaahay muraadkiisa khayrka Allah ha u yasiro ilaahay ha u quumiyo qalbigiisa waxa ku jiro khayrka Allah ha siiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigeena iyo dambiga waalidintaan ba Allah dhaaf majliskeena aan isugunayo majlis barakaysan oo ilaahay noogu naxariisto Allah ka dhigo ilaahay subxaanahu wa ta'ala cilmi naafic iyo amal saalix Allah nagu irsaaq dambigeena iyo dambiga waalidintaan Allah dhaaf ummaddeena iyo muslimiintana ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka allah ka qaado muslimiinta meel kastoo joogaan dhibka allah ka qaado gaar ahaana dalkeena Soomaaliya dadkeenaba dhibka allah ka dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad iyo barwaaqana allah ugu bedelo deganaan iyo barwaaqo iyo xasilooni allah ugu bedelo dhiigga muslimkana allah badbaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiigga muslimka meel kastoo joogaan allah badbaadiyo wixii cadow ku ahna allah ka qaarta iyo shaydaankana allah naga hayo khayrka iyo barwaaqadana allah noo furo إلهي سبحانه وتعالى جدك ستوصن علمك النافع أي عملك صالح الله نقول هجاجي صراطك مستقيم كالله نقصه شهادة أن لا إله إلا الله آخر كلامنا الله كدقو قبرك أننا الله قبوتشيو ما ننتقي من كوا ما وراقه هذا مذك تقوقات الله نقدقو باب جنة الله نوفره صراطك الله نقصه حسابتنا الله نويسره جننا إلهي نقول داقو جنات الفردوس الله نقول داقو إلهي خاتمه ونكسن هنوغو خاتمه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا